السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلوى أصحاب تقاليد أو مركلي مقال كله عصب يعني ولاش سوداء سلوى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. منا شيكة إذا ما أنت إنه وضع منا وقبر الصوماليات شيكوين كدتك الصوماليات شيكوين كأجانبته وحافر بدن بكجد ويهين سببته وحقفك الصوماليات شيكة دي سكر حدا عيا وحيابا إنها نحشرة ومر والبقى أرجنا لغاية بري إن أرجنا أما صاد ضم أما الشلي عن صو أرجنا أما قار إنها مدي ما أنت يخص ويهين ساس درت قفك الصوماليات sheekadiisu waxaynu ka helnaa waxyaabo fara badan oo ah wacyigelin dhiirigelin waxyaalo yani loo baahan yahay in laga digtoonaado almuhim dhageysi haboon gabadhan la yiraahdo Muna sheekadeedu waxay ka soo bilaabanaysaa iyadoo aad u yar aabaheedii hooyadeed ay kala tageen ayeedeed hooyadeed dhashay la nool meel miyi joogta meeshan miyiga ay joogtay marka ayeedeed ari bay lahayd ari fara badan ba xaafad joogay tir badan de tiro iyo wax la jira arigu markuu 100 gaadha tiro la dhahaa 100 iyo wixii ka sii badan ah baan raaci jiray baytiri marka xilliga iyadu de ay garaasatay sheekada inoo soo bilaabayso 7 jir meelaha 6 jir markay ahayd weeyaan ilaa wixii ka sii yaraan wax xasuusato laakiin aabaheedii hooyadeed iyadoo aad u yar bay kala tageen waxay tiraan aabahay ma garanayba yani anoo weyn baan arkay markaan yaraa ma arki jirin anigoo dhowr 10 jir waxay tiri igu horeysay hooyadayna nin kale guursatay meel kale degto waxay tiri meesha anagu aan deganahay meel ka fog bay deganeed aabahayna meel tuula oo meeshan baadiyeen anagu deganahay sidoo kale ka fog buu deganaay dukaan iyo wax ku lahaa halkaas uu deganaa ayeeday hooyaday dhashay anagu waxay tiri marka la soo koray ayeeday hooyaday dhashay marka waxay tiri ari baan u raaci jiray waxa joogay meesha marka nin abtigay oo dhalinyaro ah haduu ariga neef bahal cuno haduu mid lumo haduu wax si noqdo de waxay tiri uu idil jiray ayeeyna igama celiso inta badan ayeeyooyinku in ilmaha lagu agdilo ma ogola laakiin waxay tani ayeeday hooyaday abtiyaashay reer kulul weeyaan ayeeday saas darteed waxay tiri iyada disho ciyaalka waxay fahmi weydayada tuntaba wixii ku dilayna kaama celinayso mid kale waxay tiri ayeeday way yar tahay oo ayeeday caruurteeda qofka u yar oo gabadha oo Faatimo la yiraahdo iyada laftirkeedu sheekada gadaal ka soo gali doonto gabadhaasi aniga wax yar bay iga weyn tahayba da'da aniga iga weyn bay la eg tahay waxay tiri way yar tahay saas darteed ayeedu waa yar marka waxay tiri maalmaha kamid ah neef buu bahal iga soo cunay neefku waliba wuxuu ahaa neef dhalay oo ilmo yar u reerka u joogo arigu aad buu u badan yahay dhinacan markaan ka joogo dhinac kale haduu waraaba ka soo galo ma arkayo wuu badan yahay wuu kala lumayaa arigii waxay tiri neef buu wax ka soo cunay kadibna abtigay intuu i qabtay uu i garaacay geed igu xirxidhay gabigiiba geedkii markuu igu xirxidhay igu kaakiciyay waxay quraanjo geed ka saarnayd oo dhan meeshii baan ka ooyay quraanjadii way i cuntay hangar la waxay tiri xataa lugta iga qaniinay waan rafaaday waan silcay maalinka kadib intaan dadaali karo waxay tiri waan dadaali jiray waxa ariga ila raaci jiray tiri marka gabadh yar oo walaashaya iyo sidoo kale marmar midan yare ay isla eegyihiin walaasha iyada ilmaha da'da ka weyna yani da'diisoo kala jirtay habartaas marka iyada waa gura dambays cidina ma disho hooyadeed in la dilo ma ogola walaalkan weyn laga yaabo inuu dili lahaa laakiin maadaama ilmihii reerka u yaraatay waxay tiri cidina ma dishay suuro iyo mayacba u fadhiya anigu ba feeraha la iga tumaa markuu qalad yar dhaco waxay tiri muddan marka meesha joogna miyiga ahayd waxa jiray bay tiri marka nin la sheegi jiray reer miyiga dhan ay sheegi jireen oo laga cabsan jiray oo gabdhaha yaryar ariga raacay meelaha intuu kaga dabato gabdhaha yaryar ku xadgudba gabadh weyn tu yar qof dumaraba haduu jaanis ku helo dhibaato u geysanaya oo de duurka iskaga noolan cidna waxba ka qabanayn malaha hadii la qabto in la dilo in la xiro waxan baa lagu sameeyay lahayn loo qaban kara waa qof gabigiisuba jabhad amal u dhaqmayada duurka ku noolan cidna xukumin oo cidna ka amar qaadin oo dumarkana ku xadgudba nin baa noo yimid bay tiri maalin xilli duhura oo biyo naga qaatay nin dheer oo laf weyn oo qori wato ahaa ninkan marka meelahan duurka ku jira dadka qaarkood way garanayaan oo way arkeen dad baa arkay laakiin qof laga cabsanayo weeyaan waa qof hubaysan wixii aadam la hadii uu dilaya ma garanayo almuhim waa qof duurka ku nool inuu dhibaato dadka u geysto bas uu duurka ugu nool yahay cidina ma soo qabato waa laga baqaabo nin baa noo yimid marka qori wato reerkii biyo ka qaatay kadib ninkan qoriga wata safar miyuu ahaa ma garanay meel uu socday meel uu ka socday waxay tiri ma garanay xilli galaba ano ariga la jooga marka qaar markuu arigu meelahan oo kala harsanay reerka agtiisa ilmaha ariga la jooga reerkay cuntay wax u doontaan duhurkii xilli ay gabadhan Muna reerka wax ka soo qaadaysay bay ninkan aragtay marka qoriga wato reerku isaguna biyo ka qaadanayay ninkii uu tagay gabadhna way soo tagtay arigii bay soo aaday waxay tiri marka xilli galabhan ariga meel buur agteeda ku ilaalinayo buurta qaarna saan ay uga soo daagdagayaan qaarna xagaas oo kala dawaari badan boqol wax la jiray meelahan ay soo socdaan ana buurta agteeda meelahan ariga dhex taaganahay
baan arkay bay tiri halkaas oo kale ruux ka soo socdo buurta ka soo daadagaya wixii hadaan fiiri waa nin qori wata waaba ninkii maanta duhurkii reerka biyaha ka qaadanaya anigii waa naxay waxaan isla waa ninkii la sheegay malaha geesahan saan u fiiri waxa tir meel kale uma yar fiiri ma galay ma neef baaciyay waxbaan saa u fiiri waan soo jeesaday ninkii ma joogo waan shakay wixii meesha soo socday soo nin ma ahayn talo ninkii xaguu aaday anigoo waxay tir meeshii taagan oo fikirayo ruux wixii aan arkay inuu ruux ahay in kale ka fikirayo meeshii taagan wali ninku soo geedii waxbuu ku soo dhuruumanay baan arkay mid halkan oo kale isagoo taagan meel ii dhow qoriga buu furay qoriga marka la furo shanqar baa ka baxay qadab buu yiraahdaa qorigii markuu furay waxay tir anigii naxay wuxuu igu yiryaray gabadhay kaale anigii waxay tir waan baqay aniga qoriga wuu furay waan u jeedaa shaqadiisaan maqlaya saan uu igu soo taagaya marka meelahan markuu soo socdo buurta ka soo daadagay waan arkay saana gees ugu jeedsaday geed mu hoosta ka maray ma garanay meel buu ku soo gagabadaday halkan uu kala soo istaagay agteeda meel ii dhow cabaar ii jirta kaale buu marka kaale intuu qorigii furay sidaa iigu yeeray anigoo gargariiraya lagu sidaan ii jaraynayaan waxay ciyaalka la ariga la jooga marka oo ila jooga laakiin arigu maadaama aad u badan yahay qofba dhinac buu ariga ka jooga ciyaalka kale iima dhawoy ma arkayaan anigoo dhinaciisii u sii socda naxsan oo maanta way ku dhamaatay hadda waa ninkii la sheegay gabdhaha dili jiray way ku dhamaatay maanta markuu reerkiina biyaha ka qaadanayo malaha ku arkay inaad dhinaca ariga u sii socoto kaliya tahay ciyaalkii kale yaa kuugu yeer anoo waxay tiri u sii dhow ninkii oo ayar socda oo la soo soco oo ilaahay soo dhaqso isoo gaad soo dhaqaaq oo leeyahay ana le maxaad iga rabtaayo saan dhinaciisa ugu sii socda laakiin lugaha dhuu ku jiidaya waxay xilli galbeed marka abtigo isla soo ciyaalka ariga la soo dheelanayo wuxuu baa meelahan oo kale ka soo qeeliyo muuna baan maqlay arigiina dhinacaas oo kale u sii socday waxay tiri wuu tagay arigu intii u dambeysay baaba ani idhaaftay markuu saa abtigay codkiisa u maqlay ninkii qorigiisa in buuxdo waxay tiri wuu cararay marka boortii uu ka soo daadagay buu koray cabaar baan meeshii taagnaa waan soo dhaqaaqay abtigay baa arkay marka inuu halkaas oo kale ka soo socdo meel uuna ariga joogna arigin uu xagga aaday way igu qaylqaylin wuxuu maxaad meesha la socotaayo maxaa ugu dhacay maxaa ariga ka reebay naxdin maba hadli karayo nin baan arkay qorigu igu qabtay halkaas soo maray maba dhihinba saan u naxsanaan u shoogsanaan baan arigii gaaray sidii baan habeenka ariga ku soo xareynay baqadin anigii cabsi waxa igu dhacday marka waxaan isla ninkan bas way ku dhamaatay wuu ku arkay ilaa uu maalin kale kugu soo noqdo dhibaato ku geystana kuma daynayo nin baa gabdhaha yar dhibaateeya nin baa doorka ku jira ninkii gabadh buu dhib u geystay in hebel buu waxaas oo dhan baan waxay tir maqli jiray anigoo naxsan oo cabsanaya oo shoogsan mid kale waxaan dhibsaday arigan faraha badan ee la raacayo abtigayna ariga wax yar haduu ka qaldamo wax yar uu idilaya ayay igama celinayso markuu abti idilo kadib hadarta ayeen way isii dili waxaan isdhihi jiray marka mar walba mar uun hooyada ma idin timaad aad raacdidi hooyaday marka waan maqli jiray inay wax gadgadoy meel tuula ah degan tahay oo bagaash iyo waxyaalo inay iibiso marmar dhifay noo timaada waxaan isrin jiray marka hooyadin mar uun ma idin timaado mar uun hooyada ma ku timaado hadii hooyada reerka iman lahayd waad raaci lahayd mar hooyo ma timaado waxaas anoo niyada ku hayo muddo dhowr bilood laga joogo xilligii ninku qoriga igu qabanay ninkiina mar daba aanan arag laakiin mar walba maskaxdeedu uu ku jiro ninkii bay hooyadayna soo martay iyadoo geedi ah oo gaari ku guuraysa gaari dhayna ah oo meeshay deganeed intii ka soo guurtay meel kale geedi u ah baana soo martay waan ku dhagdhagay hooyaday marka waxaan dhawan ku raacaya kaama hadayo waan ku raacay maraaci sidii waxay tiri joog xaafada ayidaayo raac ariga qof dhan oo daaciyadana ari raacabanahay waxaan ayidii u raacaya joog baa la igu yiri anigii waan fikiray gaarigii ay ku guuraysay alaabta u saarneed habeen bayna la saxday subaxii markii guuraysay gaarigii baan ayar dhax galay markii alaabta la saaray alaabtii waan ku dhax dhuuntay waa la guuray waa la socday markii la degay ee meeshii la degi lahaa la gaaray gaarigii alaabtii laga soo dajiyay gaarigii istaagan baan ayar gaarigii ka soo degay waatan haday xageed ka timiday ima celin karto meeqa saacadood baa la soo socday intaas oo saacad in la celiyo lacag kale iyo shidaal kale in la bixiyo weeyaan sidii baan ku joogay waa la iqaanaantay ayr baan reerkii iska joogay xilliga waxay hooyadii marka reer ma leh nin iyo waxbay guursatay aabbahay ka dambeeyay laakiin xilliga cidina ma qabto hooyadii ninkii ay guursatay ciyaal umay dhalin gabadh yar oo meelaha 5 sano jirto oo yar oo nin abtigay uu dhalay baa markaa waxay tirana loo keenay oo aniga hooyadii iyo gabadha yar baan nahay hooyaday marka waxay iibisaa alaab bagaash iyo kaba iyo sonkor iyo waxyaalaha gadaa kabaha nimanka iyo bay iibisaa meeshii waxaan joognay marka meel tuulo u dhow meel miya laakiin meel yar oo tuulo u dhow aan joognaa meeshii muddo markaan u joognay dagaal baa dhacay dagaal qabiileed iyo waxba dhacay horeeraa is dagaalay dagaalkii markuu dhacay dagaal waxa dhacay waxay tiri
يعني قبيل كميش دجناء قبيل كله يجون إسلام يش ون دجن بقى استقال ضد يعني إسلام دجن وضد إسكوسو الدولية أما قال ماشي أنت كجوريس أي كعرس أنا هين ضد ما لول بإستدلية بواحد الاستقال الشري ما لها مركان وحولها أمر عنه أمر هيك إيه هذا صاص وجب حنا وحن أركينا قف للدليل وميد أو مالين بواحد حتى نين أرجني أنا قبل يردن دنت يوميل يالو ميد عبسي رير كأكتيسي أجار كيسي ما لها عندهم واحد حبضها حبض مركز على رصاصة واحد كسر حرا رصاصة فوارق ذي بعملها أساس وضعت صنو يالي واحد ترشة كذي واحد نقطة عبسي heer dadka miyiga meesha jooga waxay tir waxay gaareen geela laga furfuro koorta geel korba qoorta ugu xidhso lagu soo dhigaysa shanqadhiisa inuu luma iyo waxa ka ilaalisa si loo ogaado meesha joogo geela waxay tir koorta waa laga wada furfuri jiray cabsi kaliya dadku ay cabsanayaan dadkan kale dadkan meesha degan ma kuwii kale la dagaalamay si ayna shanqadhan iyo koortan iyo waxaan u soo dhageysanin hooyadii waxay tir gabadhii wax ka qaldanaa ma garanay magaalada hayska aado aniga gabadhii yarad bas reerka anaga tagto waa meeshii la isku dilayay cabsida ahayd marba niman baa noo yimaado qoriyo wata bagaash naga iibiya kabana siiya sonkor naga iibiya anagu waxay taan cabsanayna cunta xataa ma karsano baqdin ilaa iyo hadda waxay tir xilligan oo ruux weyn ahaan hooyo ahay ilaa markaasna waxay tir qiyaastii aan u malaynay inaan 9 sano meelaha jiray maalin walba waxaan isweydiiyaa sabab maalinka hooyadii say nooga tagtay yani calool adaga geysisana ilmaha yaryarka ah meeshan cabsida dadku ay cabsanayaan xataa cunto la karsan karin baqdin darteed waxay nooga tagayso talo saaidan waxay isweydiiyaa mar walba hooyadii waxay naga maqnayd 4 bari way soo noqotay magaalada may soo sahaminaysay ma garanayo waxbay kulli hawl iyo waxba magaalada ka soo qabsanay bay markaan la yaabnay ku dhaanay maxaad nooga tagtay waan cabsanay banaankaan u baxanay halkan reerka duleedkiisa nin meedo yaalaan oo aragnay ninkii meedka baan ku cabsanay niman waxay tir marka waxa meel geel ku haystay agteeda hooyadii ay isku cid yihiin hooyadii ay isku qabiil yihiin oo yani abti wax saasan ugu aadan iyo aadana gabadheer kala aftigeed baa dhalay adeerbi ugu aadan yihiin nimankaas waxay tir hadda bini aadanka kama garanayay waan u mahad celin lahaa daan garanay caani noo keeni jireen maalin walba hooyadii may soo noqotay ilaa hadda ma idin ka maqan tahay niyo gabadha maxaa ku dhacay waanatay maxay carruurta uga tagtay nimankaas noo yimaado waxay tir caani noo keenan marka caanahaasaan cabnaa hadana subaxiiba waxay noo yimaadaan galabkii caanayna siiyaan subaxiina caanay noo keenan waxay tir nimankaasna sii ilaalinayo naga warhay hooyo way timid aniga yaabay oo maxaad nooga tagtay cunugteena kale waxay way yar tahay ma waynu guureynaa magaaladii waxba soo fiirnay tuuladayna u guureynaa ina mariyay waa guureynaa waxay tir gaari baan la isku soo aruuriyay waan guurnay alaabteedii bagaashkeedii waxeedii dhan way soo qaadatay meel tuulo ahaan soo degnay saan tuuladii markaan u soo degnay wixii isdagaalay miyiga isku dagaalay dagaalkii wixii dhan tuuladii baa la isla soo aaday haddana tuuladii laftirkeedii baa lagu kala qaxaynta la isku dagaalay labadan qabiil miyiga isku dagaalay walaha tuulada isla degi jiray tuulada laftirkeedii baa la isku dagaalay waan sii qaxnay haddana meel kale magaalo ahaan degnay bay tir marka tuulo yar oo kala ah tuuladii kale markaan u degnay dad ay hooyadii qaraabo yihiin waxbaan daris noqonay meel baan si fiican u degnay marka dagaal iyo waxba ka soconin meeshii muddo markaan u degnay waxay hooyadii nin baa guursaday nin baa reerka ku soo biiray hooyadii maqaayad bay shidatay maqaayadan hooyo la shidi jiray aniga gabadh yarada abti uu dhalay baa hooyo si fiican ugu adeegi jirnay hooyadii gabadh yar bay dhashay ilmihii yaraaban si fiican u hayn jiray ilmo labaad bay dhashay xilli waxay tir hooyadii marka laba ilmood ay haysato oo noloshu iska fiican tahay hooyadii si fiican ugu shaqeeyo ciyaalka u hayo wax walba qabto baan maqlay maalin ninkii hooyadii qabay oo gabadhan ma arki karay gurigeyga ha ka tagto waa ani muna ma ka tagta xaafada waxay tir meel bay ku wada hadlayeen ninkii hooyo qol ah banaankan ka soo socday saan u gal baan isirba tir qolka marka hooyo wax soo weydiinay mise waxbaan u waday waxaan maqlay oo marka ninkii oo leh ma doonayo gabadhan inay guriga joogto waa inay guriga ka tagtaa gabadhan meel uungee idhaafi waan yaab aniga waxaan isoo waa ruux guriga la dhaafina waan istaagay waxa laga hadlayo aniga hay ma ogi hooyadeen waxay tir marka ay leedahay marka xageen geeya mid abtigeed aha magaalada deganay abtigeed ma u diraa yaa talo si aan dhaha ma garanayo meel baan geyn kulay xageen geeya anigi qalbigaas ay kala dilaacay awal hore waxay tir waxaan maqli jiray markasta la igu dhihi jiray aaba malihid aabaha uu ku nacay aabahaagi sidan aha aabaha waa noocan waxaas la igu oran jiray cuqdad baan aaba malihid iyo aaba la'aanta ka qabiiba hooyadeedii dhanayda ay dhashay ee markuu abtigay idilooy markii ay igu qeylsay mar walba aan dhihi jiray hooyaday ii geeya idin ma rabo hooyaday baan rabaa hooyaday hal ii geeyo aan ku ooyi jiray maalin walba hooyaday hal ii geeyo baaba ilaa ani xageen geeya xagee ii geynayso iyadoo imay dhalin xageen geeya maxay tahay ani waxay tahay qalbigayga ay kala shaqayba ninka ma garanay dambigaan ka galay waxaan ku sameeyay ma garanayo carruurta yar aabaha u yahay baan hayaa hooyo waa la shaqeeyaa wax qalad iyo dambiyo ninka ka galay ilaa hadda ma garanay ninki laakiin wuxuu gabadhan ma raba aan guriga ay dhaafto ma joogayso guriga i dhaafi
hooyadina waxay iskala xageynaya isaan idhaahda aniga waa iska noqday marka meelahaas ku ooyay subaxii xilliga galab ay heeday gabalkii baa dhacay habeen bay noqotay subaxii baan hooyadii u imid waxaan ku dhaanu hooyo waxaan rabaa inaan magaalada aado abti gurigiisa igeyso oo aan wax barto ilaan shalay baan maqlay iyadoo la abtigeed ma u geeyay ana abtiga ku geynayno waa bisay rabto si lagu darayde abtiga baan ku geynayaa waxaan ku geynayaa magaaladan ku diri lacagtana ana abti u soo diri waxaan dhihi gabadha dugsiga iskuul ii geeya halka ha joogto aan hayaan dhahay marka magaaladan tagaya abtiga gurigiisa wax baan baranayaan waaba jeclaaba inaan wax barto sida wax loo qoro inaan barto quraan inaan barto waaba jeclaaba khalaas waxaan marka guriga abtiga baan aadaya hooyo waxay tiri hay subaxeedaba gaari baa la isaaray gaariga magaalooyinka iyo tuulooyinka iyo meelahan caanaha u kala qaadqaaday miyiga iyo baa la isaaray gabadhaadi saad u sii wada meesha geebal adigu guriga abtigay meel uun abtigay uu igu imanayo ninkan gaarigii wixii baa la igula dardaarmay gaariga baa la isaaray abti waa lala hadlay waa loo sheegay inaan u soo socdo waxa la gabadhaas gurigaaga kula joogto waxna habarto hooyadii waxay timid lacag baan ku soo dirayaa xilligaas waxay waa mar hore ilmaha dhan waxbarashadiisa $10 baa ku filaydba wala iskuul iyo dugsiba wax yar baa wax lagu baranayo lacag Soomaali ah gabadha waxay tir lacag baan ku soo dirayaa gurigaaga ha joogto waxa barato hayo yiri abti soo dir dib ma lahay abtiga waxay markaa ugu shaqeeyaa mar unbu gurigiisa yimaada dadka safar weeyane yaani magaalo iyo magaalooyinka kala shaqeeya mar unbu guriga yimaada guriga aad uma joogo waan socday gaarigii kolba meel ha sii joogo meel aan hadhigo kala meel aan ka qaato habeen baa dhaxda la sii joogay gurigii baan tagay abtigay guriga abtigay markaan tagay waa la soo dhaweeyay waxa la soo dhaweeyay guriga ku soo dhawow oo hawsha guriga ku soo dhawow darahaaga wax barasho iyo iskuul iyo dugsi waxaan ka fikirayay oo dhan meesha way ka baxeen hooyadii abtigay la soo hadashaa lacag bay u soo dirtaa abtigay waxay tiri abtigay kale oo nin weyn oo iska blo wax barto nin weyn baa guriga isaguna joogo wax barto meelana ka shaqeeyo marmar uun xaafada yimaada abtigaygan xaafada jooga lacag buu bixiyaa uu gabadha u dhiibaa guriga le hooyadeyna lacag bay soo dirtaa oo gabadha guriga la u soo dirtaa lacagta maxaa la igu soo dirayaa shoobinkayga dharkayga iyo waxbarasho kaga bixi baa la gabadha waxbarashaba imay geynba dugsi Soomaa hataa waxay tir iridkiisa meeyna hataa dugsi meel ku yaala saameynay horumarin guriga shaqadiisa uma qabtaa caruur yar baa u joogay tir marka abtiga dhowr ilaa 4 meelahaas nin waxa jira bay tir marka wiil yar oo kuusan oo adigu meelaha dhowr iyo 10 jiro iyada muna wax yar ka weyn oo ay islaantu dhashay oo muna abtigeed uuna dhalin oo caruurta abtigu uu dhalay ka weyn waxa tir cunugiina waa ka doonta iigalada ee ugu noqday la kad maamadiina salka dhulka haba dhiginba waxay tir waxa igaga siisay hada ilaahayo maxaa iga siiyay guriga abtigay baan aadaya aanoo ayidii anoo ku noqdo baadihi ariga ku raacay ii dhaantay ha fadhiisanin shaqo 12 maanta saan u shaqaynayo baan waxay tir deesaas meel ugu dhici fiidkii habeenkii anoo daalay oo dhintay salaad waxay tir gambaleel soo bini'aadamku kuma kacaan waxay i bartay islaantaasi adinka masjidka Allahu akbar sheekhu markuu yiraahdo Allahu ila soo istaaga aniguna jikada gal dabka shid xiliga cunto ka dhiso qaar sameeyan jeero shax ciyaalku subaxii markay baxayaan wax kasta waa inuu diyaar ahaada kaliya marka shaqada guriga uu inaan qabanaya ma aha dilka canaanta wiilkeeda yarna waxay tir uu idili joog qadaan wada halkaas ugu dhufanaya afka koodka isha inta jug wajiga iga taalo wiilka yar ugu dhuftay ilaahay uu xisaabin kara hadaan u sheego ku dhadayga cil waxay leedahay wuxuu kugu sameeyay malaha waxba kugu dhufane habareertaydii yarayd ee waxay tir aniga marka 2 sano bay igu weyntaa habareertaydii yarayday reerka ayidii u yarayd ba iyadana la keenay waxa la dhiyaduna magaalada ha joogto aniga habareertay la keenay baan bilownay marka wiilkii inaan isdagaalno habareertay mar isdagaalan mar anigaan isdagaalna bas islaantii weyna nacday waxay tir gabdhahan marka hore leen kaligay baa joogay marna iyada ay dishay marna wiilkeeda ay dilay marna guriga ka shaqeeya anigu marna waa lay tumaa'un marna waan shaqeeya cid waxbarasho ima geyso abtigay ima weydiiyo hooyadii intay tirada gabadheeda telefoonka la igu dhiibay ma dhaxdo iskuul baa lagu geeyay iyo dugsi baad dhigataa iyo quraan halkeed maraysaa aabahay isma naqaano warkiisa ma hayo cidiba ima wareysato islaanta lacagta la igu soo dhiibo ma garanay waxay ku sameeyeen malaha biilka reerkeeda ku darsataa way ituntaa hawsha gurigana qabo un bayna wiilkeeduna uu itumaam casarkii iyo maqribkiiba habareertay baa timid habareertay markay timid waxay taani habareertay marka gurigan ka shaqeynaa shaqo ka qabanaa wiilkeeda yarkii waxay tir marka walaha taa habareertay kama amaan helayso habareertay uu dili mar anuu idili haddaan waxay tir marka damacna inaan dilno xataa ama iskugu tagno ama hal mid xataa waan dili karnaa islaantan ka cabsanaynaa isaguna deewayl meero kibray oo gardaro garab og ma qal jirto hooyadii wiilan isku halaynayaa uuna gardaraysana maanta uuna daandaansano kalba waxba nagu dhifano waxba nagu soo tuuriyo uu naga adag yahay uu naga adkaaday waxay dhahday marka maalmaha kamida
baan waxaan eri wuxuu sameyn jiray marka waxay tiri lacag cash oo lacag Soomaaliya guriga salaad soo dhigan jirto lacagta biilka lacagtaas uu xadi marka isaga yaqaan meesha la dhigo lacagtaas uu qaadan uu xadi hadhowna wuxuu dhigay gabdhahan lacag xaday ana arkay iyaga wax soo gadanay ana arkay iyaga meel halkaas taagan iyaga kubad ciyaarayaan arkay halkaasay marayeen kuray bay la hadlayeen waxay tiri beenu xataa naga alifan wixii oo dhan islaantan waxay u sheegay abtigii anaga naga ma wareysanayba wax barasho ma leedin geeyay wax ma barataan wax ma dhigataan maxaad qabtiin dharka nooceed xidhintii waxaas oo dhan ma dhahayo waxay tiri wuu iman ama wuu dilay ama wuu nacanaanan lacag aanan arag oo aan taabanin waxay tiri cunugaas nagu nabi lacagta qofka xaday waan ognahay inuu cunugan yahay laakiin cunuga bas la aamino warkiisa anaga cidina ma aaminayso lacagta maanan xadin laga ma dhageysanayo meel maanan taagnin qof lamaanan hadleen cidina dhageysanayso male aniga waxay tiri marka ciilka intuu iga batay maalin waxaan ku dhahay habartay aan dilna cunugan xun soo nafta noomu keenin ama abtahay in dilo ama ilaahay guriga xataa maalay naga eriyay maanta cunugaas horta aan ka waqsiino gabigiisa aan sugno yaani aan edbino xoog aan u garaacan aan meel iska saarno hayay tiri ana waxay tiri umar marsiyoonayna marka uu heshiinay barna inaan dilno islaantan marka waxay doontaa samayso wiilkeeda maanta waa inaan dilaa wuxuu dilay gabadh yariisa waxay tiri ilmihii isaga ka yareeray hooyadii dhashay wax ku dhuftay cunugtii yareed markay ooyday la yiri war cunugtii yarta ayaa dilay wuxuu yiri munaadishay ilaa uu u bartay wuxuu jabiyo wuxuu dhigay munaajibisay ilmo yar buu dilay wuxuu dhigay munaadishay dambi kasta lacag buu xaday munaaxaday dambi walba waxay taanu iyo kor saaraa uu u bartay hooyadiina xataa ma dhaxayso munaay ma adaa waxa sameey ma jirto waxbuu sameeyay munaasamaysay kabta iskoobaha nugu igu taala waxay tiri iskoobayaal tashawan baa guriga yaala oo aan la igu jajabiyay iskoobayaashii jajabnaa intaan soo qaaday baan ku uribay tiri habartii maanta wiilkan kawban ka siinayna kowre markuu mar alaana markuu ila hadla ama wax igu dhufto ama wax uu sameeyo qolkaasaan gali qolka markaan galo ku cararo isagoo ordiyo iga soo dabagal qolka ilaa maalin kasta inuu idilo u bartay qolka markuu iga soo dabagal adna naga soo dabagal albaabka intaan hoosta ka xidhnaa qolka ku dhaxtumayna haye anaga waxay marka umar marsiyoonayna buu cunug yar dilay cunugtii yareed baa ooyday wuxuu munaadishay cunugta munaadishay waxbaan ku dhuftay uu igu soo boodo qolkii baa ku cararay isagoo ordiyo qolka iga soo dabagalay habartayna qolkii bay naga soo dabagashay albaabkii baan xidhanay iskoobayaashii waxay tiri jajabnaa oo iskoobayaashan jajaban waxay tiri ana islaantan igu jajabisay ila dhacaysay baan de intaan qabsanay hareeraha kala galnay cunugii wajiga afka indhaha madaxa meelba ogamaanaan dugin waan ku boobsiinay ku boobsiinay waxay tiri hada ilaah baan ku dhaartay sida qof 6 bilood aan shaax cabino shaax kulul cabay amal hada idid baa iga soo yaacay cunuga ciilka aan u qabay maalinka markaan garaacnay waan farxay in la itumi oo abti idili oo islaanta idili waan ogahay laakiin mar horta cunugii nafta ii keen hadaan garaacay maanta waxaan leeyahay alxamdulillah cunugii markaan tunnay oo sugnay oo dhimar rabade baan ka soo saarnay qolkii islaantii ninkii bay wacday iyo soo gurmo gabdhihii waxay dileen wiilkaygii waxay isku tageen wiilkaygii aniga xataa way dileen way caayeen way shiideen balaayo dhan baa dhacday abti uu yimiday waa la istagaal waxay tiri anigu marka waxaan ahay dadka hadii dambi la kor saara xataa dambi aanan galin haduu i kor saaro wiilkaas ama qof kale ma doodi karo ma dhihi karo waxaan ma sameeyay ma dhihi karo hadii ama dambi la kor saaro ama la icanaanto waan ooy ilin baa soo dhaafay midan kale habartay ahana dadka waxay tiri waxa weeyaan dhiiranay hadalka badan ama dambi hal kor saaro hal dil xataa iyadoo la dilay xataa way qaylin way isdifaaci habartay waxay tiri marka maalinkii markuu abtina dilay qayladay oo tiri islaantaadu wayna dulmida lacagtu wiilka yaraxado ay noo qabsataa maalin kasta wiilkeeda hortiisa nagu canaanata wiilka hortiisa nagu dishaa wiilku waxaan nagu sameeyaa lacag waxadu noo kor saara dugsi ma dhigano iskuul ma dhigano maxaa meesha noo keenay waxbana lama baro maalinka cunugii yara waxa tir dilkii aan dilay noogama darin horta cunugii banaanku naga maray bila waan isugu tagno waan garaacnay feerahan ka tunay sida gaaladan u tunay deesi bila naxariisaan u tunay ilmaha xunka diinta la kibriyo oo dulmi meedhan noqdo oo waalidkiina dulmiga ku garab siiyo ilmaha kale cuqdad buu u qaaday ay guriga kula nool cuqdadii baa lagu dul dhacay markaas feeraha laga tunay waa la sugay mustaqiimka lagu soo riday abtagii maalinkaas waxay tir ogaaday aan gurigiisa ku noolin inaan badugsi dhiganin gabadhii yarayde ahayd marka Faatima markay dhahaysay dugsina ma dhigano maxay ma dhigano iskuul ma dhigano wuxuu yiri rumiya islaantii buu waxay gabdhahan sheegeen dugsi ma dhigtaan iyaga diiday bay tir munaafiqiin weeyaan iyaga diiday xijaab xataa ma xidhaan iyagu madax qaawan bay banaanka u baxaan ku badbay ciyaaraan maxay bay sameeyaan sidanay sameeyaan tii kalena waxay halkan ka qaylada waa beented anigii baa la ii weydiiyay oo leeyahay yiri rumiya waxa jira aniga waxa ma hadlayay oo hin meeshan iska barooranaya waa run iyo waa been midna ma dhihi karo dugsi baa nala geeyay dugsiga markaan dhowr bilood dhiganayno xilli waxa la gaaray marka xilliyada xagaaga xilliyada iskuulada la xiro
baa la gaadhay iskuuladii baa la xidhay islaantii waxay tiri baadiyahaynu u guuraynaa sodohday baynu u tagi waa ayeeday ciyaalku caani iyo waxa soo cabaano waa la guuro miyigii baan u guurnay dhammaantay waan wada guurnay baadiyihii baan tagnay ayeeday marka iyo islaantana way isla hadli jireen ilaa weligoodba gabdhihii waxay tiraahdaa marka ima ixtiraamaan oo wiilkii bay dileen oo aniga i tuuriyeen oo iyagoo madax qaawan bay banaanka wareegaan oo kubad bay ciyaaraan oo dugsiga way diideen oo quraan ma dhigtaan oo waa saaqideen oo waxbay saan noogu akhridaa ayeeday iyo abtigayga baadiyaha joogay noo xanaaqsan yihiinba ayadoona loo xanaaqsan yahay sida ayeeno loogu diray ayay dhiig ku karsan yahay oo leh ilaa labadaa gabdhood marmay yimaadaan horta aan tume baan baadiyihii tagnay baadiyihii markaan tagnay galabkii koowaad meesha markaan tagnayna lama hadlin ciyaalkii meesha joogay waxbaa nacnacyo wax siisiinay ilmihii iyo arigii iyo xoolihii wixii baan dhex galnay maalin labaadkii waxay tiri marka islaantii gabadhii ahayd Faaduma waxay ag fadhida hooyadeed oo ah Muna ayeedeed maamadii baa waxay weydiisay marka ayada anigu waxay tiri marka ciyaal halkaas oo kale ku ciyaaraya Muna baan ku maqnahay oo soo eriyanayaa oo la boodboodaya meelahaas aan ku ciyaaraya Muna waxa lagu yiri marka Faaduma waxa lagu yiri marka magaalada joogteen saaqadiin baad ahaydeen banaanka boodboodi jirteen kubad baad ciyaari jirteen dugsi diid baad noqoteen waxaad noqoteen dad fasahaaday gabadha mid kale aad la joogteen ee guriga ula joogtaan ee gurigeeda joogtaan sababta maxay tahay aad uga amar qaadan la aydeen u disheen wiilkeeda u disheen gabadha u aflagaadeyseen waxay tiri Faadumadi way yaabto iyadoo indhaha taagayso la waxa soo dhan waa been baan aniga meesha soo istaagay taano intaan soo orday meelahaas oo kale ka imid raagaya baan halkan oo kale soo istaagay ayadii agteeda waxaan idhi yaa waxa kugu yiri dha baan isri yaa waxa kugu yiridaa sii dhahayba waxay tiri halka oo duulaysan halka feedhaha bidixda naaska bidixda hoostiisa bay ayay iga dhafatay tiri naga aamus munaafaqadii waa ku xanaaqsanahay waxay tiri aniga waan orday maanta dhan waan boodboodayay saantan meesha soo istaagay ano loo nasanayaan meesha soo istaagay waxa ka baawadnaha iga dhacday waa suuxayba qalif kabtan xoog bay ayay igu soo tuurtay waa suuxayba xilli dambe saacada kadib baan soo toosay anoo joodari biyo ku dhex jira inta meel la iseexiyay sidii biyo la igu rusheynay la talo may dhimatay talo miyay nooshahay wadnaheedu miyuu garaacmaya wadnuhu istaagay talo miyay neefsanaysaa baan soo baraarugay xilli dambe anoo qoyan oo meeshan jiifana ay qoyan tahay sidii biyo la igu waday ilaa qof adoo soo xamiiga maxaa la sameeyay biyo baa lagu rusheeyay marda ma soo kacay marka oo soo baraarugay subaxii baan waxay tiri marka islaantii oo meesha dab shidka ee dabka lagu shita fadhida oo cunto iyo wax karkarsanayso meeshaas dabka fadhida waxaan eribay tiri sababta aad ayadii noogu dirtay maxay tahay wixii lagu haystay Faadumo iyo ayay wixii Faadumo ku raadi wixii waxa tabartay marka ii sheegtay waxay tiri ayay waxa soo weydiisay su'aalahaas oo islaantan yaani namiimiyanimadii munaafaqnimadii magaalada ku haysay abti lagu direysay abti kaliya kuma ekayn maamadan intii soo wacday lagu diri jirtay xataa maamadu way noo xanaaqsan tahay islaantii ma waxaan ku warbaahin maxaa horta beenta kuugu wacan islaan yahay maxaad sidaas u tiri dhagax weyn waan soo qaatay waxay tiri dhagax baan wata meesha eedii diganta waa meel wada dhagax waxay tiri buuro agtoodo dhagaxu deesaanu meel kasta u daadsan yahay dhagax intaan soo qaatay baan islaantii halkan oo kale cunto ku karsanaysa ku wari maxaad noogu dirtay ayeeyo horta beenta maxaa kuugu wacan islaan yahay been badida naamaanaad saas ileedahay dha unba istiri oo soo kac waxay tiri inay soo kacdo unbay maagtay saantii u soo kacayso maan dhagax waxay tiri feedhaha kaga dhuftay dee meesha boqolaal dhagax baa yaalay dhagax un baan gurtay wabdee ku kala maan hadana ku dhuftay wab waxay aragtay unbay tiri markay islaantii dee intay qayliday Faadumadii habartay ahayd xaggaas oo kale intii ka soo wareegtay waxay tiri iyaduna dhagax gurtay islaantii xagga hore anu ka shiiday iyaduna gadaal unbay ka shiiday soo celinay wab waxay tiri waa kala qayliyay reerkii dhan way qayliyeen abtigii baa joogay marka xilliga abtigiina keenay islaanta qabay abti baa soo baxay qayladii wixii markaan maqlayeen abti soo baxay waan cararnay halkaas oo kale waxay tiri u cararnay meel buurta reerku agdegnaa liilkeedan ku cararnay abti baan soo eriyaday inay istaaga maanan istaagin waxay tiri abtiga baastoolad buutay inta baastoolada iska furay wal xabba ku riday oo yiri istaaga wallahi hadii kale waan idin tooganaya xabadii markay dhacday waan naxnay intaan saan iskugu soo boodnay oo isqabsanay baan istaagnay anagoo saa isu haysano oo noo yimid oo soo qabtay munaafiqiin yahow ilaa islaanta waxay sheegaysaa waa run islaantan waxay tiri dhowr sano 2 sano guriga abtiga jooga 2 sano bayna dulminaysay laakiin 2 sano ayna dulminaysay de waxay noqdeen been iyadu waxay sheegaysaa markan run noqday anigiina waan shiiday tii kalena way ila shidtay waxay islaantan isu celinima dhagax kala daalnay gabigeediba malaha 15 dhagax 16 baan ku dhufanay wabde iyaduna xagga dambuun bay kala soo martaan xagga hore ma kala istaag waxay tiri gabigeediba waan dilayba gurigii baan la keenay deewaana la tumay oo waana la dilay waxa la sabab
qofku weyne maxaad u dilaysaan waalidkeediina islaantii way xanaaqday waxay tiri ilmihii carruurteeda u yaraa intay qaadatay sinta saaratay bay halkaas oo kale ka baxdo meeshan ayadii ay degan tahay wada u dhow wada laami ah martay tiri ayay meesha degan tahay agteeda oo qof meesha haduu istaagaday daqiiqadiiba labadii daqiiqaba gaari waa soo maraya ilmihii yaraa bay qaadatay carruurteeda u yaraa laamigii bay tagtay gaari bay raacday magaalada u socdo magaaladiiba iska aaday kii wiilka ahaa ee weynaay iyadu ay dhashayna carruurtii kale unbu soo qabtay hooyadii baan ka daba tagaynaa meeshan xunta la isku dilay ma joogay meeshan hooyadii lagu dilay kiina carruurtii buu kaxeeyay way tageen isna gaari kale u raacay abtigayna wuu tagay reerkii dhan way tageen labadayadii bas aniga habreertay baa meeshina looga tagay ayadii hana canaanato abtigaygii kale hana dilo qomayooyin baatiin reerkii soo xagaa baxay rabi xataa inay cabaar meesha joogaan waad irideen idinka sababtiina reerkii u tageen islaantii odaygii way isdagaaleen magaalada markay tagaan xataa in isdagaalaan baa laga yaabaa hana la dilo hana la canaanto maanaga waxaa dan kale islaantii wiilkeediina maalin horaan dilay maantana iyadii baan dilay waxay tiri anaka farxad waan faraxsanahayba islaantii horta waan tunay wallaahi bilaahi waan dilay waan ku sugnay baan leenahay laakiin waana la tumay waana laga jaray inaan ku dhufanay oo dhan reerka way guureen marka anu kaba daba tagi karno islaantii ilmihii u yaraabaa tagay kuwii kala tagay odaygiina wuu ka daba tagay labadayda basaana laga tagay labadayadii waxay tiri marka dee arigii raaca baadiyihii jooga miyigii markaan cabaar joognay anu ayadii waxaan ku xarbaa in hooyadii ka daba tago anu hooyadii marba inaan u tago oo aan ku noqdo meeshii tuulada ahayd sababtoo miyigan iyo meesha baasi la guriyo arigan iyo waxaan meesha hooyaday degan tahay baa dhaanta meeshaas yacni ka yara room hayay tiri marka way ka xaysaayday meel tuulo ah waxay igeysay bay tiri ayilada marka gaari baan ka saarayaa oo waxaan ku dirayaa hooyada meesha degan ayidii markan meeshan ay degan tahay ayidii waa reer guraamar meesha doonta iska degtaade waa islaanta ariga badan hooyadii meesha degan tahay waxay tiri marka aad bay uga fogtay meesha ayidii degan tahay waa in tuulada la igeeyo gaari la isaaro tuuladan la igeyn doono marka ee gaariga la iga saaray aabahay baa degan oo dukaan kule tuuladii markaan tagnay waxay tiri islaantii dukaan ay hor istaajisay ayadii ahayd waxay tiri dukaanka ma u jeedaa aabaha baa iskale dukaankaas ku jira ordo u tag aabaha horta ma taqaanaa weliga aabaha ma aragtay ma arkin aabaha waa nin xun oo maxaya oo sidana oo xun oo fiicnayn oo ilaa qabiilkiisii awowgiisii kontanaad intii higaadisay bay tiri ordo u tag anigoo waxay tiri marka yaabande oo mid kale xanaaqsan oo aabahay u xanaaqsan oo ayadii la yaaban baan dukaankii galay aabihii baan la hadlay waan isu sheegay wuxuu yiri aaba seetay ma fiicanta kale ayida baan ku soo tusiyay ayidii aabahay dhashay waxay tiri marka aabahay intaan la sii socday markasta waxaan isla weydiiyay su'aal oo waxay tiri sabab maxaad noo nacday maxaad noo dayacday sabab hadaad aabahay tahay oo dhashay sababta aad noo rabin maxay tahay hadana waxay tiri iska aamusaa marba waxaan isla su'aasha weydiiyay hadana waan iska aamusaa wuu i kaxeeyay maamo weyn oo waayeel oo ayidii hooyadii dhashay ka weyn oo islaam weyn ah oo guri joogto ii geeyay waxa yiri gabadhan waa muna waa gabadhaydii ayidii waxay tiri waa tahab isiisay igu ooyday ilaahay inkaar kugu rid meeqa jeer baan ku caruurta isoo tus allah ay sidee tahay ma fiicanta waxay tiri ayina xariis leh oo fiican oo dhabanada iga dhunkanayso oo gacmaha ay ugu tuutuujinayso oo sida ayooyinku lagu yaqaanay sida caadiga ayooyinku waa dad aad u naxariis badan muna ayidii wax ka qaldan ma garanayaan oo malaha de way miyigan iyo xoolahan la raaciyo waxan miyaa wallahi ma garanayo waxay tiri ayidii waxay noqotay aad u naxariis badan lacag bay isiisay cuntay isiisay ayeeyo waxay tiri markasta marka yar joogtaba way dhunkataa ala ninkan inkaar buu qabaa meeqa sano baan ku lahaa carruurtii ii keen carruurtii soo tus bas waxay tiri marka ana faraxsan oo la ay fiican baad heshay bas hooyadayna ma rabo iyo meeshaan u socday toona ma doonayo ayidii baan la joogay oo daniyada ka farxay oo ku faraxsan ba ayidina la joogay aabhay mid ayida ba soo wacday waxay tiri gabadhan hooyadeed baan wada gaari baan saarayaa soo kaxay مع سلامة أيدا سو استاج أيدي بان مع سلامة وان دون كذا العقب إيصاصي سي وان كسوت جاري بالله إسهاري برتي هو يدي شوكتي بالله يدري مركي تولدي هو يدي بنتجي وحنقول مركي دوكسي بان ربعينان ركتو oo markan magaalada ka soo guureynay dugsi baan la geeyay cunuga yar markaan dilay kadib baa dugsiga la geeyay intaan aan cunuga dilin sanad iyo wax la jiro waxa reerka umaan u shaqeynay dugsiga ay mageen maalinkan cunuga yar ka dilnay gabadhan habartay ay sheegtay tir dugsiga lama geyn baa dugsiga la geeyay dugsi baa la geeyay marka tuuladii ay hooyadii joogtay baa dugsi la iga geeyay dugsiga baan dhigan jiray
dugsiga anoo iska dhigto hooyana la shaqeeyo waxay tiri ninkeedii de markaan anu soo socday may u sheegtay muna soo socdo may tiri waxay u tiri ma garanay adu ninkii waxay tiri imuu eriiro guriga gabadha ayaa la iga keen muu dhihin markii hore leen sida ay gabadhan gurigayga hala ii dhaafay waxay adigu gurigii baan tagay ciyaalkii raban hooyo la hayay maqaaxid ba hooyadii shidataa maqaayadan la shidaa dugsigayga iska dhigtaa wax walbaan qabtaa waan soo weynaanaya marka waxay tiri 12 jir baan hayo nimanka tuulada ba gabadhaada isii al gabadhan maada dhalay waa gabadh qurux badan bay igu dhahaan waxay tiri maqaayada ay hooyo shidataa niman iyo waxba imanayo ku qayliyo shax ka cabeeyay nimankaas waxay tiri maalin kasta hooyo gabadhan nasi iyo waxaas ku dhaha laakiin waan yara waxay markaa wali guur ma gaadhin dugsiga anoo joogo waxay tiri dugsiga dhiganaya ba gabadh iga weyn oo waxoogaa ani iga yara weyn badee oo magaaladan waxay tiri tuulada waxa ku yaala masaajidka tuulada ku yaala imaamkiisu gabadh uu dhalay oo gabadh ani iga weyn marka waxoogaa yar weyn ba isoo istaagtay bay tiri anigoo looxba dugsiyada lagu dhigtaa meelaha tuulooyinka looxa marka waxa jirta geed inta la soo gooyo caleentiisa saas loo marmarin jiray ma xasuusataan oo la rabo in lagu saxo sadarka markaad rabtid inaad qortid quraanka yani sadarku si uu kuugu tooso hadaad rabtid wax cagaara lagu sameyn jiray geedka magaciisa ma garanay saan inta loo mariyo looxa wuxuu kuugu sameeynaya sadar sida buuga liidkiisa oo kala markaas hadhow quraanka aad qortana qurux uu ku noqonaya ana waxay tii caleen haysto loo xisaa caleenta umar marsaneen bay gabadha kan oo kala soo istaagtay gabadhu imaamku dhalay caleenta bay iga qaadatay waxay tii ana si caleenta aniga ale meelihid ana soo gurtay may anaale waxay tii way qaadatay way la dhaqaaqdayba iyadoo sii socoto ma loo inta saas waxay tii afka u qabtay oo saan oo kale u sii socoto baan halka kaga dhuftay bay tii marka qadaadka ku xagay iiga xoogaysa alaabtayda macallinkii aabe halkan oo kale taagay waxay tii uuna arkaa markan gabadhu waxaan igu qabsanaysa marka igu muu celinin gabadhan iyada waxa la muu dhihin maxaad isku haysataan muu dhihin wuu aamusnaa saantii gabadhu u sii dhaqaaqis waxay tiri waan istaagay looxi intaan afka u dambeeyay qabtay ul ahaan de looxuna waa culays baan halka kaga sii waxay tiri gabadha hore bay u dhacdayba geeb afka u dhulka gelisay gabadhii markay dhacday marka wax weyn muu gaadhin waxay tiri way kuftay cabaar bay dhulka jiiftay way kacday macallinkii baa soo orday mid kale waxa la dhihi jiray bay tiri gabadhan macallinka la siiyay macallinka guursan raba macallinkii u doonanta wax noocaasa gabadhu waxay tiri marka in yar anigu iga yar weynta macallinkii waa ka itumay waxay tiri ul iyo waxa muu haysan ma garanayay ul iyo waxba ciyaalka lagu dilay darbaaxan buu dhaw dhagtan igu fujiyay dhagta kalena waxay tiri igu fujiyay wajiga iga darbaxay dadka waxaan haybtay marka anigu san gororka qabo hadii jugir ku dhacdo sanka dhig uu ka imaado dhagawi hadda inay qarxeen baan u malay waxay tiri waan wareer jihada dhan baa iga luntay darbaaxada oo ila dhacay sankiina waa ka dhiig iga yimid xijaabkayga oo dhan wada dhiig maryahan xidhnaa dhiig waan cararay gurigayga baan tagay anoo ooyaya oo qaylinaya oo wada dhiig maryahaygu yihiin baan waxaan tagay marka maqaayadii hooyaday waa ta argagaxday yaabtay maxaa kugu dhacay maxaa ku helay markaas aan macallinkii baa dilay macallinkii baa saan ku dilay mise wax qof kale ku dilay macallinkii baa dilay in hebel baa caleeniga qaadatay loox baan ku dhuftay kadib aanu gabadhayda macallinku gabadh darteed u dilay miya waxay hooyaday way xanaaqday marka maamadii oo xanaaqsan oo macallinkii laftirkiisii soo wacay gabadha yarta ee edabta daran ee fiicnayn ee sheedaamada maxayga kana gabadhii sheekhu uu dhalay way loox madaxa kugu dhufatay oo gabadhii way suxid oo hadaama gabadhaydu sheedaan dhalay un bay tiri gabadhaydu sheedaan dhalay Soomaa waxay tiri kal halkan oo kala taala kalii raashinka lagu tumanay tibta mooyaha ama kal un bay qaadatay maamadii macallinkii aadayba macallinkii dugsigiisii meelaha agtiisa socday bay ku boobsiisay ma ka hadlaninba maamadii macallinkii way dakhartay macallinkii way dishay waa la kala qabtay dadkii tuulada dhan baa isku yimid alla macallinkii baa la dilayay alla hebel ayaa macallinkii dishay macallinkina gabadh yar buu dilayay gabadh yar marka waxay tiri in la dakhray qofkii arka dhiig yani iga daatay iyo maryahayga sidii waxa loo maleynaya jug weyn inay igu dhacday macallinkii waxay tiri dharbaaxoyn xun buu igu dhufto dhagaha iyo madaxa dhan baa ay wareersan dhiigina laakiin waa gororsanka iga yimid oo marka hore wax yar markuu igu dhaco waa iska gorori jiray gororkii wixii dhiigi maryaha ku daatay wixii baa la arkay macallinkii waa la dilay waxay tawaaday macallinkii way dakhartay de gar iyo qabiil iyo mag in la bixiyay noqotay macallinkii la dilay dugsi kale tuulada kuma yaalo macallinkiina waan dilay hooyadii waxay igu tiri guriga fadhide dugsiga macallin kale kuma yaalo dugsiga tuulada kuma yaalo dugsi kale macalkii macallin waan la dagaalan waan dilay waan dakharnay khalaas guriga waan fadhi marka ciyaalkan hay maqaayadana ila shid
بس waxay tiraan ugu si fiican waxaan u joogay marka gurigii hooyo baan u shaqeynay quraankan inta taqaan ku celceshaa leeyahay marka inta taqaanid uun dhigo macalinkaasi agtiisa agagaarkiisa ma mari karnay ilaa waan dilnay wallahi man hooyada Soomaalida asalka ay duwayaan ma gabadhaydu shaydaan dhalay kulaha markii leeyahay gabadhii sheekhay dishay waxay tir markaas hooyadii xanaaqdayba markii hore yani way yaabanayd oo waxay lahayd leesh yani macalinku xusaan gabadhu ugu dilay way fahmi lahayd yani wax dhacay isagii laftirkiisii baa soo wacay wuxuu gabadhaadu waxay dishay gabadhii sheekhu dhalay gabadheedu shaydaan dhalay miyaa aan bay intay kal qaadatay macalinkii baa la sugay de mustaqinka lagu soo riday laftirkiisa waxa dhacday marka waxay tir tuuladii baan iska joogay gurigii baan iska joogi jiray quraanka intaan aqaanay baan iskaga cilcishanay iyadoo waxay tir marka lagu gudo jiro xilli xagaaga dadku way gurguraan reer miyiga dabaylo iyo wax baa jiro maqaayadaha dadka shita iyo dadka meelaha tuulooyinka suuq badan male qof baa laga yaabaa inuu ku yimaado laakiin xilliyada oo xagaaga ma garanay dabaylo iyo wax baa socdo suuq fiican male adigu dadka meelaha tuulooyinka waxay tirido maqaayadii meeshii wixii la iska fadhiyo bay hooyadii gaari gacan ii dhibtay waxay igu tiri gaari gacankan oo reer hebelkaas ah leh uge dad waxa jira marka waxay tiri aan darisnahay xaafad hooyo iyo carruurteedo badan oo halkan oo kale nooga dhow oo hooyadii maalmahaas isku dhaceen isdagaal gacmaha isla meegalay laakiin afkii waxba iska qabqabsadeen iskaga dhaceen saantan u sii socday waxay tiri kaaryoonihii sii wadeen isla reerihii laha adugeys anoo dhaxda sii socdo reerkii gaari gacanka iska laha banqayla maqli gadaal hadaan soo fiiri maqaayadii hooyadii tuuladii dhan ku sii gurmayso ma arkay oo la sii galay ilaa maqaayadii baa la isku dhex dagaalay gaari gacankii waxay tiri meeshii intaan ku tuuray oo meel aan soo mariyo qashin qub ah dhalada fiintado ibra ka soo qaatay anoo dhaladii fiintado wata waan gartay in la istagaalay markaan ka dadkii ku sii orday maqaayadda hooyadii baan soo istaagay meeshii waxaan arkay in bay tiri hooyadii oo islaantii weyneed dariska ahayn ay saas isku haystaan laba gabdhood mise saddex ay dhashayna ay hooyadii korka ka tumayaan gabdhahan waaweyn leen iskama celin kare waxay tiri mid yariis halkan oo kala taagan oo ilmo yara baan dhaladii madaxa kaga garaacay mid kale oo kuusan ku dhufo tu kale haddana waxay tiri dhaladii way jajabtay saan dadkii ugu dhufanay alwaax baan halkan oo kale ka soo qaatay musbaari iyo wax ka taagan yihiin islaamihii hooyadii haystay korka ka haystay uma kaloo mid ku dhuftay kolbo mid tii weyneed xataa anoo ku dhufan rabay hooyadii ugu qayliday tirina kada ku dhufanine waa la kala qabtay dadkii waxay tiri hooyadii way dileen islaamihii iyaduna way dishay ana carruurtoodii baan daqdaqray markay meesha la isku dagaalaya timid reerkan markay hooyadood weerarka soo qaaday carruurtii oo dhan way soo raaceen macal kuwii yaryara mid yariis oo 2 sano meelaha jiray kaga bilowday muna marka soo reerku may dhalin kaayar bay kaga bilowday gurigiisaba dagaal baa waxay meeshii ka dhacay reerkii anaga waana la kala qabtay waana la heshiisiyay waxa la yiri ammaan isasiye idinka reerka gabadhan hal hadlina hooyadeena waxa lagu reerka hal hadlin haye waxay tiri anigu marka dugsi ma dhigto maqaayadii laga shaqeynay lagu mashquulsanaay wixiina suuq ma leh shaqaaba ii soo baxdayba waxay tiri maalinka reerkii baa shiida la dagaalama gabadh iyaga ka socota hadaan arka xataa meesha biyaha laga soo dhaansada joogto waan ku booda xataa maalin baa waxay tiri mid meel biyo ka dhaansanaysa biyaheedu igu soo duulduuleen ilaa waa xilli xagaa dabayl baa socota Soomaa halkaas oo kale taagna biyeer baa igu soo duulay dabayshu igu soo qaaday waxay tiri waan ku booday maxaad ugu booday biyaheedu say igu soo duuli karaan waxay tiri reerkii baa waxaan kaga siiyay yaa rabbi maxaa islaanta nala dagaalsiiyay hooyadii waxay tiri marka waan ku kaxaynayaa abtigaagii magaalada joogay baan kugu celinayaa sababtoo ah ma joogi kartid tuuladan dariskiina waad dhibtay ani reerkana maalin walba dartaaban isku dagaalnaa dugsi leeyma geyn karo macalinkii hooyadii baa isdagaalay oo macalinkiyaas iyo dugsigiisii agagaarkiisa wanted baan ka noqonay aniga hooyadii waxay tiri marka abtigaa baan ku diray magaaladii tag waxbarasho maada jeclayn magaaladii intaad tagtid ordo waxbaro waan ku duceynayaa waayahay oo la soo kaxeeyay magaaladii baan waxay tiri la keenay markan laakiin waxay tiri waxoogaa waan weyn hayo sidii islaamtu ay dilaysay way igu shaqaysan oo shaqo way ii diri laakiin dana waxaan qabo iskoo baa ku dhufa kabta ku dhufa ma jirto marka waxay tir qof weyn baan ahay gurigii waxaan ku soo noqday marka abtigay markaan ku soo noqday gurigii abtigay waxay tiri aan muddo joogo meel aan galay bareefad iyo wax meel macad camal ah aan wax ka barto dugsina aan dhigto hawsha islaantan waxay ii dirto dhanna aan u qabto islaanta waxay markan ima jecla hooyadayba abtigay wacday abtiba yiri gabadha guriga ha timaado oo abtigay amarkiisa ku imid ma ahana ima rabto waxay tiri way xanaaqsantahay oo si fiican ilama hadlayso oo gafuurka ii taag oo wiilkeeda xunka waxay tiri ilama hadlayso xataa markan uu weynaado anigu waan weynaado isma dagaalo islama hadalno laakiin wiilkuna ima rabo islaantuna ima rabto ana dan kamil guriga jooga waxay ii dirsatan oo aan u qabtaa maalmaha kamid ah waxay tiri xilli fiida waxay yimid abtigaygii iska bulada ahaa waxay tiri yimid jirdiinka ma fadhiisanay batani abtigay marka jirdiinka guriga hortiisa kaabada guriga islaantii waxay aragtay anoo nin meesha la fadhiyo may hubinin ba ninkaan meesha la fadhiyo marka ma abtigayba nin kale ma xumay hubsan
abtiga waxay tiri magaalo kale ku maqan oo safar ku maqan wuu safri jiray bay wacday gabadhan xunta meeqaan ku dhihi jiray akhlaaq male iyadoo yar bay xumayd oo in akhlaaq lahayn waa gabadh fasaxaaday tarbiya male maxay male saan male nin bay guriga hortiisa la fadhida abtiga waxay tiri ana marka telefoon yar baan haystaa oo niclo oo yariisa waxay tiri meelaha nambarada iyo wax dhanka go'go'ano yaa allah ruux markaan wacanay xataa aan ku wacan karo dadba ma aqaan qof nambarka ma hay hooyadii baan wacabis oo nambarka haya muu isoo wicin ani abti ninkaad la fadhida waa ay abti guriga gal waxa muu idhiin wuxuu wacay hooyadii waxay wacday ayeedii abtiyaasheedii kale dhan bay wada wacday abtigay dadkii qaraabada ahaa oo dhan buu wacay gabadhaas way dhibtay heblaayana ana igu soo masaafurin mar walba gabadheedu waa qof xun akhlaaq male tarbiyo male edeb male maxay male waa la wada waxay tiri la iswada wacayba abtiguuba soo safray haymaada abti hameennimadii muu yimid bas subaxii hore yimid waxay tiri xilli subax markii saas loo soo kaakacay oo subax jimcaa anu aan aadaynin waxbarasho abtigayna waxay tiri abtigii weynaa isna guriga joogay ee iska bladahan gurigu dhinac ka degan yahay una waxbarasho shaqo waxba aadayn markii subaxii saas loo soo kacay inba abtigay ugu yiri tiri dhageyso muna boorsadaada iyo maryahaaga qaado iyo dhaaf gurigeyga abti xageen aada maana meel kale ba garanaya magaalada cid kale kama garanaye may umbiiraha magaalo cid ka garo dib jirad yahay waxa tahay qof xun oo wanaagsaneyn oo akhlaaq lahayn oo doorsanayn oo maxaya oo carruurta diga fasahaadinaysa oo akhlaaq malid gurigeyga ii dhaafiyana kaw kaasina hadii kale kaw baan kaasina abtigayga yaraan baa soo baxay oo yiri war waa maxay bismillaahir rahmaanir rahiim shaydaanka iska naar maxaa dhacay inuu yiri maxay samaysay gabadhu qaladkay gashay maxay tahay wuxuu yiri waa gabadh xun oo wanaagsaneyn oo fasahaadiyo kanoo halkaas xalin la fadhiday أعوذ بالله وروح أنا وقع قف كل فردي ماشى ياك ويري نبي قبل ماشى لفردي أنا إذا ماشى ولا فرديني مدة كل واحد مركز سوق لي نقول لك كسر حرامي إسلام وين عرفت مركز سان وعرفت بحث وين نحضي وحن السربة المركز ويجيسني يسميها محيلا نحضي مركز إذا أركتي إلا waxay fashay ma ogeeyeen abtigay wacday abtiin reerihi oo dhan wacay qabiiladu iswada waceen ma ogeeyay islaanta markaan saa u soo galin waxay tahay way naxday marka aan waxaan isirma hadalkiina dhageysanayay yani sababta ay u naxday ma fahmin ilaa waxay la naxaysayba warbay naga gudbisay meesha markaan fadhinay iyadoo waxba hubsanin wuxuu yiri anuha qofkii gabadha meesha la fadhiyay heblaayna weyna arkaysay markaan meesha fadhinay markaan soo galinayba waa loo yeeray iyadii halkan oo kale soo istaagtay abtigay wuxuu ku yiri bay tiri gabadhan qofkii meesha la fadhiyay ma abtigeed buu ahaa markay guriga soo galayeen waan arkayay ana wax xubsanin baan u malaynayaa bay tiri ana wax xubsanintay sii dhahaysay waxay tiri bahalaagan ba halka wadnaha kaga dhuftay abtigii qabay waaba ka islaantii tumayba ka qabta say iigu sheegi kulaha waxayna hubin way istagaaleen labadoodii waxay islaantii wuu dilay ninkii wuu xanaaqay anigiina wuxuu yiri waaba saan u go'aansadayba shaydaamad baaba hortaade aslan gurigeyga marka timaada dagaal baaba ka dhacdo ii dhaaf gurigeyga ma joogaysid aniga waxay tiri waa la eriyay magaaladan cidna kama garanayo hooyadii baan wacay abtigii baa dad wacay gabadh aan qaraabanahay baa la iikay islaantii odagina way istagaaleen laakiin markaan ka tagay malaha gadaalka heshiiyeen gabadhan qaraabanahay waxay tiri dhinaca hooyadii aan qaraabo ka nahay baa la iigay gabadhii baan gurigeedii iska joogay gabadhii waxay tasho gurigeedii inaan soo aado khayr bayba ii ahaydba maalinka abtigii islaantiisu inay isdagaalaan iyo islaantaasi war ayna hubin inay sheegto waxay tiri maslaxa iigu jirtay mararka qaar waxa jira khayr inoo aan shar u malaynayno iyo wax sharkeen oo khayrkeen waxay tiri khayr bayba ii ahaydba ilaa la soo iriyo waxbarashaan ku fikrayba waxbarasho fiican baan helay meel macadaan galay luuqadahan bartay caafimaadkaan bartay si fiican baan wax u bartay quraankii baan dhigtay quraanka waxay markaa xilligaas si fiican baan u dhiganayo markaas aan sii dhameynay mid kale waxay tiri miyiga aan ku soo koray waxay tahay ma garanayo waxbarashada aan aad ku jeclaayeen u baahnaa ilaa markaan yara aan ku fikiri jiray miyaa ma garanayo waxay tiri qof aad u fahmad badan baan ahaa anigoo meel macad dhigtay oo kalkaalisa caafimaad soo bartay oo shahaado dibloma qaatay oo quraanka dhameeyay oo xisaabaadkii waxyaalo kala barto farsamada gacanta barto wanaagsan ee arintaydu shaxshaxtada weynaado gabadh weyna baan waxay tiri marka nin isbaranay oo aan joogo guriga gabadhii qaraabada aan ahayn xilligaas waxay tiri marka guriga laftirkiisa culays baa iga saarnaa jaamacad baan rabay inaan galo gurigana waxay tiri inaan ka tagaan rabay haddaan guriga ka tagana meel kale oo aad ma garanayo hooyaday miyay degan tahay ayadii ka sii daran aabahay ismaba naqaan meeshu degan waa meel iska tuulo iyaduna miyi ah gabadhan mooyin qaraabo kale magaalada kuma haysto gabadhanna waxay tiri marka xilliga gurigeeda culays baa iga saarnaa ma garanayo saan ula joogay reerkan ay dhibsadeen waxay tiri ma garanayo reerku wax dhib iima geysanayaan laakiin yani culays baan guriga ku dareemay nin baan isbaranay ninkii 3 cisho markaan sheekaysanay inuu guurdaan uu guur baan rabaa mustaqbal baan ka rabaa nambarkii aabahay baan soo diray waka aabahay wax i weydiiso maxaan rabaa anigu mar guri aan leeyahay inaan daga bal horta mar
يا ربي waxaan la guri aan leeyahay mar maan dago waxaan rabaa inaan marka waxbarashada sii wato inaan jaamacad galo inaan si fiican wax u barto waxbarasho asaas iigu soo hilaacayso guri marka la tago in ilmo la dhalayo mas'uuliyad waxaan dhan waxay tiri waan ka dhacsanahay maba xasuusniba guri aad aduu leedahay in cidina culays ku saaraynin oo aduu aad xuriyadaada u leedahay horta martag baa isla waxay tiri ninkii aabahay buucay wuxuu dhigay anigu lacag weyn iyo waxaas iyo maxay ma haysto aroos weyn iyo waxa ma hayo aroos ma rabaan inay batiriyaha kugu aroos beerta aroos ma rabo aabahay ii weydiiso hala ikaasi hala ii ka meheriyo guri soo diyaarso oo bilaahi tawfiiq gurigeena aan degaynaba la aroos baan rabin wala dahab iyo lacag iyo taashiyo maxay waxaas oo dhan buu ma baahni baa anigu waxay tir meel aan degaan muhiim u ahay ninku waxay tir markaas saaid buu ii rabay aabbuucay wixii de qaraabada la siin jiray Soomaaliya la bixin jiray wixii baa la bixiyay wixii hooyo aaba loo dir lahaa sidii baan ninkii isku guursanay muddo yar baa isnaqaana ilaa inta arooska la diyaarinayay inta aabahay la ii weydiisanay intaan sheekaysanan bilba ma dhanaba muddo yar baan adoo waxay tir isku barna isku guursanay gurigeyga baan degay gurigeyga markaan saas u degay waxay tir de alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan marka hadda baan si fiican wax u baranayaa waxbarashadeeda baan hadiyo ko si fiican aan u bilaabayaa gursanayay anu ninkan mana jacayl uma qabin guurna jacayl uma qabin yani muhiimada dhan maxay ahayd mar meel aad leedahay adigu guri rasmi ah tag waxbarashadaada sii wado marka ninkii u soo bandhigay inaan jaamacad galayo rabo inaan jaamacad galo macadi iyo wax soo dhigto shahaadooyin wato wuxuu yiri marka jaamacad maxay diiwaaba lagu guursaday mar waa meel baaba degan tahay maxay tahay jaamacadii waxaad ka sheekaynayso dad wax baranaysa mar baad xor ahayd gabadh ahayd maxaad u baran weyday may anigu inaan wax bartaan rabaa markaas ima suurtagelin oo haddana kuma suurtagelayso waxay tahay ninka isqabsanay muranay reerkaygii waxbaa lala hadlo arrintii la soo dhaxgaliyay aabahay wuxuu iska soo istaagay badii hooyadayba waxaan rabaa ninka horta anaka bal xoolaha nasiyo gabdhaha xoolaha laga bixiyaa maxay baa la bixiyaa lacag baa la bixiyaa ninka waxa uu bixinba jaamacadiini murankiini wixii idinka idin taalahay ninkan horta bal waa inuu lacag iyo xoolo iyo maxay waa inuu bixiyo xoolo muu bixin ninkan gabadha bilaash buu guursaday inta waxay tiri murankaygii doodeedii ninkii socday waxbaan barnaya waxba baran mays reerkayguna ay wax kale ka sheekaynayaanba iyo lacag gabadha laga bixiyo aniga waa walacayba urba igu soo baxay waan xanuunsaday cunto ma cuni karo wax la cuno ma garanayo hooyaday waxay tiri waa qof adag iyo ayeedayba day way ka sidarantay ayeedayna dad adag waxba lama weydiin karo maxaa la cunaa iyo maxaa sameeyaa iyo waan xanuunsanahay iyo cunto ma cuni waxa lama tagi karo dad wax la weydiin kara ma aha aniga waxay tiri deeb saaxiib ma lihi islaantan guriga abtigayeen muddada joogi jiray qof ama aan isdhaxgalnay ama aan isfahanoon la sheekaysan yani waxay tiri qof dumar ah waligeey lama sheekaysan laa walac ilmo guur waxba noloshan hooyanimada iyo waxaan iyo guurkan iyo waxba kama garanayaba san meelaha waxna xanuunsanayeen u rafaadsanaa xaamila markaa noqday walciyo wixii laga baxay waxay tii marna u gaajoonay marna kolba waxaan israabada cuni kartaa aan cunayeen aduu meelaha iskaga rafaaday xaamila noqday odaygayga waxay tii uu isbedelay 80% digriin busa u kala wareegay hal mar qolkiiba waa ka guuray qolka waxay tii fadhigu u guurayba gabigiisiiba qolkiiba waa iiga qaxayba qolkaas waxay tii iska saxda qol iyo fadhi baa deganahay qolkaas fadhigu iska degay aniguna marka qofkan waan u jeedaa telefoon buu ku mashquulsan yahay sagaashanka mar uu ku hadlayo mar uu wax qorayo mar uu wax akhrinay telefoon buu ku mashquulsan yahay ma isdhahay tii marka mar rabo hadda waqti xaadirkan aan ku jireen xaamilada inaan telefoonkiisa ninkan dhax galo oo baarbaaro oo fiiriyo waxay tii mar rabo tan ugu talagalay inaan fiiriyo waa fiirin kari laakiin waxaan go'aansaday inaan fiirin sababtoo hadda anaaba tacabaanaba oo xaamilo oo saan u culus lama sheekaysta marka yaad la hadashaa xageed aadaa xageed ku maqnaataa maxaad qortaa maxaad saan la tahay maxaad qolka ugu guurtay waxaas dhan ma idhaahdo waxaan isleeyahay danahaaga adaaba naftaada wadila oo tacbaan ee horta sugbal aad dhashidi cidna hadda hala murmin muranba maba karaysid waan umulay habartaydii yareed ee Faaduma ahayd baa ii timid oo xilliga magaalada joogtay iyaduna wax baran jirtay baa ii timid umusha iga bixisay muddo dhowr bari ila joogtay way kadib habartay way iga tagtay habartay markay joogtay ilaa ninka saan buu mashquulsan yahay oo telefoonkaas uu ku mashquulsan yahay ninkan nin shaqo weyn telefoonka ka dhaxaystay inuu yahay waan arkaa laakiin isaga telefoonkiisa toona kuma mashquula anigu ilaa markan xaamilada ahaa oo telefoonka ku dhax mashquulay oo jacayl isku mashquulay sida ruuxda shaqo weyn meesha ka haysto kale gabadhii munaahid waxay tiri habeen inuu teleefoonkii qof baa iga qaatay meter telefoonka waxba kaga dhacay telefoonkeedii habeenkii lan uu dhafraya qofka gabadha umul markay tahay waa inay caawin soo jeedo ilmaha yar ku dhafarto ilmaha yar ma seexdaan habeenkii telefoonkiisa ma waxay tiri habeen u baahdo markuu sii seexanay ma ku telefoonkaaga ii keen waxaan ku soo jeedaan rabaa ee tooshkiisana inaan ifsado laydka weyn ee caaw dhan iyo mashidnaan kare ana aan isku maaweeliyade baan rabaa
إيما إيمانيو هل ساعة حتى عنقت إيما نسينيو هويدي إيما إيمانين هذا waxay tiri hooyadii qumul loo tagay waxa sarta loolama iman karaba iyo ayidii iyo reebtay waa dad adag waxay tiri adag waxba xanuunsanay iyo qof baasan iyo naxariistaas maba qoraanba qof kale oo qaraabo ahna magaalada kuma leeyahay habarteena muddo ila joogtay dhowr bari kadib habartay way iga tagtay anigu waxay tiri marka ilmaha yarka anigu ba kaligay haya maalintii anigu ba gurigeyga wixii hawl aan ka qabsanaya ka qabsada waxaan isla hadal dib male waad iska bogsan doontaa waad caafimaadi doontaa ilmaha yar uu ku weynaan doono waxaan niyad ku dhisanay ninkan telefonkiisa kuma mashquulo habeenkaas subaxti wax ugu watay ma garanaya baan ninkii ku wiri telefonkaaga isi xilli dambe uu sii seexanay telefonkii buu ii keenay oo furan deelan telefonka waxa rabaa inaan daawado ku dhex jiro ku soo jeeday uu iska tagay uu iska seexday aniguna caawa dhan marba meel saan u galay marba wax u daawanay baan Facebook dhex galay messengerka baan galay wax iigay waxay tiri ma garanay messengerka baan waxaan ku arkay gabadh oo bari hore ninkan guursaday aniga ka hor iimu sheegin marka anigu wuxuu weliga gabadh ma guursan anigu weliga nin ma guursanin markaasaan isku bilaabanay laakiin waxaan ogaaday oo fariimahan ka ogaan doonaa inuu bari hore gabadh guursaday iyo fiidiyoyada iyo balaayada meesha ku jirta inuu hore gabadh guursaday gabadha waxay isku guursadeen meher xad ah qof asxaabta kamid ah maalin hore wuxuu ilaahay meher xad maxaa laga wadaa meher xad iyo wax noocaas maalin aan ka sheekeynayni meher xadka waxa laga wadaa qodba sire ama gabadh intay nin iska raacdo oo ninkaasi uu kaxeeyo sheekh meel joogo u geeyo uu sheekhaasina gabadha ninka uu meheriyo bilaa waliyul amri gabadha dadkii ka ahaa mas'uulka oo ogeyn aabaheed walaalkeed hooyadeed cidna iyadan ogeyn macna oo dadkii gabadha walaadeed hayay aan looga fasax qaadanin gabadhii nin iska heshiiyaan oo isguursadaan meherkaas marka waxa ka jiray inuu sax yahay inuu qalad yahay waxaas hadda mowduuceena ma laakiin meher xad waxaas laga wadaa yani meher la xaday waay oo gabadha dadkoodii laga qariyay ama laga xaday amal gabadha waxay markay ismaarxadeen ninka ama isqod basreysteen kadibna gabadha reerkoodii baa ogaaday gabadhii waa lagu qayliyay ninkii waxa lagu qasbay gabadha inuu furo ninkii gabadhii waa laga furay gabadhii ninkii wuu jecel yahay marka waa goorma waxay marka aan intuu la guursanin waay sida aan ka fahmayo qoraaladan iyo hawlaha meesha ku jira laakiin ninku wali gabadhii wuu jecel yahay nafta hada uga baxaysaba oo hinta iyo yuuska iyo calaacalka ka dhacay waad yaabtaa iyo sida gabadhii uu rabo wali haba rabee qofku qof uu jeclaan kara dib male haba jeclaada haduu rabo waxay tiri muusa sabto waan ku jecelahay iyo soo yani wax kale muu kula sheekaysto malaha gabadhii baa waxay ku tirday nolol baad samaysatay waad guursatay wax noocaas waxay tiri anigu halkan ay bilow ilaa dhamaad igu dhamaadayba anigii iyo waxaan ahayn iyo wax walba iyo wax kasto ani isaga naga dhaxeeyo wax walba xataa khusuusiyaadkii reerka uu gabadhii faraha ka saaray wax walba waxa tir gabadhan uu sheegaaba aniga waa naxaydisaa u baan u kala wareegayba ninku miyuu waalayahay ninku gabadhu uu shaqaysan karaa wuu guursan karaa xataa haba la sheekaysta gabadha ha guursado wuxuu doono ha sameeyay afaaraha reerkiisa isaga xaaskiisa xaguu dadka kale bini aadanka uga sheekaynaya waxay tirtay anigii waan naxay mise waan xanaaqaa waxaan sameeyay ma garanayba waan yaabay waan naxay waan xanaaqay qofkan wuxuu sheegayo iyo wuxuu ku hadlay iyo aflagaadada igu dhacayso uun ee gabadha islaamada la ilacaynayo aniga waxay tir wixii qoraal iyo fariin iyo fiidiyo wixii meesha ku jiray dhan horta messengerkayga ku darsado forward ku dhahay kadibna waan wada dhiliiday isaga meeshiisa yani aan meeshii aan iskaga diray baan ka dhiliiday si uu u arkin inaan dirsaday laakiin isaga meeshiisii gabadha ay meesha uga soo dirtay isaga wax isaga direen kama dhiliiday telefonkii log baan galiyay meel baan iska dhigay aniga de fikir baan galay go'aan ka qaadan ninkan go'aan baan ka qaatayba qofkan saan ii aflagadeynay anako isku cusub oo ilmihii koowaad isu dhalnay oo dadkan Soomaali Maxamed de uga sheekeynay xaafadiisa iyo dhaxdeeda iyo wixii ka jira qofba ma qofku uu waaliya malaha maxaa ka siiya midda kale muxuu iiga qarinay gabadhan inuu guursado weligay wax uu guur ma soo marin midda kale ninku gabadhan uu basaan u jecel yahay ilaa waagu guursado ilaa markuu fur ilaa hadde muxuu ani ii guursanaya marka qof baaba noloshiisa ku jiro jecel yahay anu taba maxaa noloshiisa ka dhax qabanaya waa ma soo qaldamayba albaab qaldam baaba ka soo galay qofka noloshiisa markaan soo galay ma garanay waxay wato aska soo galay ana markii hore waxay tilka ma rabin markii hore ma jecelayn jacayl aan u qabo qofkan ugu guursanin dan iyo meel inaan degaan u guursado san reer bini aadan u korsaarnaa ku daale aniga desaan u fikiray waagi habriyo cunugteedii yarta masaasadaheedii dharkeedii wixii baan dhaqday quraac baan sameeyay waxba isaga ma dareensin la gabadh baa inta ka baxday waxba isjukaansanayay waxay tir waxaas qofku markuu murmurmayo xanaaqayo qofka la doodayo qof sahlan waayo xaaladiisu wali sahlan tahay aniga waxay tir heer aan murmaba maba taagniba waan niyad jabay khalaas
aniga waxay marka waa niyad jabay waan fikirayaa marka subaxii markaan isaga quraacda u samaynayo markaan cunugteed u qabeynayo markaan masaasadaha ilmaha dhaqayo markaan dharkii waxaan hagaajinayo markaan guriga hawl ka qabanayo waa sheekaysanaya anoo keligay ahaa waxay tiri kolba plan baan dejinayaa saan yeel sida yeel maxay sameeyaan maskaxdeeda waxay tiri shan qabiil baa isku dhex dagaalay buuq waa igu furan laakiin isaga waxba uma muujinin telefonkiisii buu qaatay subaxii wuu baxay wuu shaqo tagay cunugteedii yarid baan iska haystay go'aan baan gaadhay marka ani go'aan baan xariiqday ninka saan u kaga lug bixi lahaa ninkan waxay tiri marka waxaan ogahay oo aan ka dareemay inuu yahay ragga dumarka ilmaha yarka ku xujeeya marka la isdagaalo ilmahayga ha isiiso gabadhan hadii kala ma furayo ilmahayga qaadanaya ilmahayga dadka yiraahdo inuu yahay baan waxay tiri dareensanaayeen ogaa go'aan baan gaadhay marka waan iska joogay waxay tiri marba teleefankaaga ii keena ma dhihin teleefankayga wax ka ifsan jiray teleefankayga wax ka dhageysan jiray cidna uma sheegin isagana lama hadlin isagana waxba uma muujinin nolol caadi ah iskaga wada joogno isaguna qolka uu degan yahay qolka aan deganahay umul baamanahay mushi baan ka baxay kadibna waxaan ku iraano waxaan rabaa inaan aado tuuladii hooyaday halkaasaan cabaar iska soo joogaya cunugteer ay soo yaro weynaato muddo dhowr bilood halka ku soo maqnaanaya ilmaha yarka hawada freshka iyo waxaan rabaa inaan sii caanaha xoolaha maxay waxay tiri maskax baan saaro wuxuu yiraahday ana waan safray isaguna waxay markaan uu safray meel buu u socdo u baxay magaalada wadanka dhexdiisa laakiin magaalada ka baxsan magaalo kale uu u safray ana magaalo hiilayaan aadayayo safar shaqaan u baxayay adiguna dee waa hagaagay waad baxaysaa miya waad bixi Soomaaliya hayo way waxay tiri lacag u sii xada markaan afartan baxayo lacagtii maalinkii saaluun baan aadayo timaha soo hagaajistay cilaan baan soo marsaday waxaan u baahnaa shopping iyo waxba soo iibsaday waan soo qurxiyo waan soo kalkay waxaan ku dhawaan halkaasaan aadayo adiguna dee iska safaro markaad soo noqoto dee hayno ahaato haye isagii wuu baxay markuu saas u baxay waxay tiri anigu alaabtii guriga taalay oo dhan waaban gadayba gabigeediba alaabtii guriga taalay girgira iyo joodariye iyo daahiye iyo bustayaal iyo weel iyo wax yar baan ka reebay oo dee wax yar oo yani wax hadii la iibina lacag fiican aan goynin laakiin in yar oo muhiima TV-gii talaagadii fadhigii sariirtii wixii oo dhan kabadhkii kulli waan iibiyay lacagtoodii baan ay farq ku shubtay alaabtii intii aan reebtay waxyaalihii yararka ah ee muhiimka ahana gaari baan ku gurtay yani cunugteedii tuulo fog oo waxay xilliga magaalada aan deganahay ka fog oo tuuladu aabahay deganaa baan aayad iska xaadiriyay qol baan kareystay daahiyadii baan ku xidhay shamc baan dhigtay joodariyadii aan watay baan dhigtay dhag halkaas aan iska degayba lacagtiina waan wataa aan alaabta ku iibiyay uma sheegin aabahay ba tuulada degan aabahay hadaan u sheego ama aan u tago uu i garanay isagoo haduu i arko laakiin dadka tuulada xataa ima garanayaan hal qof oo dadka tuuladana i garanay ma jiro bartaasaan degay teleefankiina simikaarkii waaban tuuray simikaar kale aan qaatay laa hooyaday baan xataa la hadlin ninkii markuu de safarkii ka soo noqday malaha horta de gabadhii wacbu isii waxay tiri ma garanay intuu i wacay buu i waayay malaha hooyadeedii aabaheed buu wacayo maanan arag bay dhihi tiri hooyadeedii aabaheed wax xiriir waxay tiri ma bilhin baan markii ay ii geynaysay ilaahay waxa ninkii ku dhalay caayisay iyo markii ninkan uu iga doonayay baaba wax xiriiran dhaxmarayba aabahay waxay dad ama isku fiican ama is yaqaanaba ma nihin hooyadeena waxay tiri ma arkin gabadhii hal raadiyo gabadhii xagee aaday mooji jaan cid meel dhigtaan waxay tiri tuuleer baan degay ayr baan meel iska degay khalaas qolir baan iska kireystay waxaan go'aansaday halka inaan gabadheeda ku haysto ilaa inta gabadheedu ay sanad iiga gaadhiso sanad markay gabadheedu ii gaadhina halka ka soo baxo oo niraahdo waxaan rabaa ninkan hay furo haduu xataa marka igu xujeeyo cunugteer marka cunugteer waan siin karaa laakiin ilmo yar hadda dhashay ma jiko hadda 40 ku jira ma siin karo hadaan warqadayda hay siiyana waan ogahay inuu dhix cunugta hay dhigto ayr tuuladii iska joogay 9 bilood markaan tuuladii joogo 9 bilood oo yani lacagtii markay ka dhamaatay dahabyo ay haysatay waxbay sii iibsatay ma shaqaysato meel lama aado guriga ayr bay iska joogtaa tuuladaas iska degan tahay dadka tuuladu de markay tooydaan ilaa Soomaalidu way isteeyeen waa lagu barano qabiilkaaga lagu weydiino wax kale iyo qabiilo kale dad kale u sheegataa ninkii akhiiran uu soo helay horta 9 bilood markaan meeshii joogay waxa jiri soo helay ma garanayo sidoo igu soo helay ninkii oo socdo gaari wata baaba gurigii yaraan deganaa iridkiisa soo istaagayba maxaad saanu yeeshay bini aadan ma tihid maxaad la dhuumanaysaa maxaad saanu ilmihii badiga qarisayo sidanaad yeeshayo dambiganaad gashayo anigana waxaan ku irin marka yaa bilaabay dambiga adiguba dambiganaad gashay oo qof sidanaad oo waxtay akhasunaas bini aadan kaba ruux bini aadan adoo kale ama bijiraba horta inaad hadashaba kuma banaana warqadaydii bartaa ii dhig wuxuu yiri marka warqadaadii bartaa kuma dhigay dadkii adu waxbana kala waa la ogaaday waxay tiri waxaan ogaaday dadkii oo dhan
qabiilkaygii wixii tuulada joogay ilaa aabahay waana kala dhex galay buuq baa waxay tiri marka igu furmay waan soo tagay tuuladii waan ka soo tagay tuuladii hooyadii joogtay baan imid gabadhii radan hooyadii kaga soo tagay magaaladan aadaya baan idho meel baan ka soo noqonay gabadh saaxiibadii la aroosiyay waan soo noqonayaa halkan joog gabadhii yar ii yahay gabadhii baan waxay tiri hooyadii kaga soo tagay xilliga gabadhii markaan hooyadii kaga soo tagay 10 bilood meel haysi jirta gabadhii baan hooyadii kaga soo tagay magaaladii baan imid isagiina waan waxaan magaaladan joogaa isagii waxaan ku magaaladan joogaa waxay tiri meel baan marka ku ballamiyay marka waxaan ku kuma rabaan inaad iska kayfirtid baan rabaa kuma doonayo waan istagaalay waxay tiri waan murnay wuxuu waan ku furay oo uu ifraninka sidii bay ugu furay waxaan ku dhigay meherkayga baan rabaa marka soo meher maxay ahayd maadaama meher igu leh meher igu ma lihid wax meher oo ku siinay wax meher igu leedahay ma leh hayaan idhi bay tiri marka khalaas waad furtay meher kugu ma lii soo ma haye bas gabadheedana waan ka qadanay gabadheedana maxay aan sameynay gabadheedu lahaay waxay tiri sidii baan ku kala tagnay niman waxay tiri dhalinyaro ah baan diyaariyay marka anigu qaar aan qaraabanahay iyo kuwan aan qaraabanahay kuwa ay sii diyaarsadeen waxaan ku ninkaas lacagna ugu haystaa ninka marka wuxuu shaqaysta nin shaqaysto lacag haysto akoonkiisa inta kuna door ugu jirto weeyaan ninkaas aan meherkayga inaad iga qaadaan ninka waxay dhaheen marka wax meel ku ballami markaad wacdeed meel ku ballamisid baan ku imanaynaa waan qaadaynaaba gabigiisa si afduub ahaan baastoladii qoryeyntan madaxa kaga qabanaan gaari saarayna magaalada waan ka bixinayna magaalada duleedkeeda markaan geeyno baan dhahaynaa si gabadha meherkeeda ilaa qof kasta akoonkiisa telefonkiisa ugu xiriirsan yahay hadda u dir lacagteeda aan dhahayna qasab baan kaaga qaadaynaaba lacagta ninkii baan waxay tiri marka wacay meel baan ku ballamiyay uu ii yimiday meesha waxay tiri marka aan ku ballaminayo meel waxa weeyaan oo meesha isagu uu ka shaqeeyo buu igu ballamiyay meesha uu ka shaqeeyay waxay tiri xilligu uu igu ballaminayo waa xilli habeenoo meesha laga kala tagay meeshii baan soo galay meeshii markaan waxay tiri saas u soo galay baan hadal saan isu dhaafsan waxay tiri isagii baaba bilaabay inuu idil yani isku day inuu idilu ii hanjabo ii gacan qaado wiilashana way ila socdaan meelahan kale ilaa ku dhuumanayaan meeshii bay soo galeen waa la qabtay ninkii gabigiisa qori baa lagu qabtay waxa la adoon is dhaqaajinin soo bax meeshii baa ninkii laga soo saaray gaari banaanka taagan baa la galiyay waxa gaarigan gal waa la waday ninkii la waday magaalada laga saaray magaalada duleedkeeda markii la geeyay baa lagu gabadha Soomaaliland isqamay Soomaaliland istagaal Soomaaliland furin ma qabtaa hadda xaaskaaga miyaa maxaad ugu soo haliilaysaa ugu gacan qaadaysaa marka hadda meherkeedii barta u dhig meherkeedii waxay marka 3,000 oo dollar wuxuu lacag ma hayo aabahay baa xanuunsan maxay baa inta ka dhacay maxay baa saana anigu lacag ma hayo anigu lacag ma hayo akoonkaaga furbar wallahi hadii kale intaan ku dilo ban meedkaaga halka dhigayna yaa ku og wuxuu yiri marka 2,000 baan siinaya marka 2,000 baan siinaya maadaama aabahay xanuunsan yahay maadaama xaalad ugu furan yihiin 2,000 baan siin kunka kalena waa kalaan siin hayaan idibay markaan 2,000 baan abaal ku qabaaba ha isiya 2,000 waxay tiri ii diray markiiba ayagu EFC amise sahal markuu ii diray 2,000 ninkii wiilashii nin bay waceen gaari bay u dalbeen gaari baa meesha laga soo qaaday aniga nimankiina gaari baan soo raacnay ninkii waxay tiri marka aniguna waa soo tago tuuladii ku soo noqday hooyadii gabadheedii yarayd ilaa gabadheedii inuu iga qaataan ka cabsanayaay ninkii dadkii oo dhan buu wada wacay wuxuu yiri gabadhiini saasay ii gashay maafiyaan bay ii soo kaxaysatay waa la aftoobtay qori baa la igu qabtay magaalada duleedkeeda la igeeyay waa la dhacay lacag baa la iga dhacay balaaya inta ka dhacday waxay tiri qabiilkaygii way xanaaqeen aabahay oo qori wata ii yimid qori gabadhan waa bandiliya kulaha kawbaan ka siinaya sababta way naceebaysay ninkeedii bay rag ku dalbatay qasab baa laga furay ninkii lacag baa laga dhacay ninka waxay marka waan kala furnayaa markaan ninku uu ifurayay ifur baan idho isna uu ifur waxay tiri dagaal kuma jirin dagaalka iyo qoriga la isku qabanay meherkii baan kaga qaadanay abay wuxuu marka magaaladan ka tag tuuladan ka tag magaaladan kuma arki karo wallahi labada indhood hadaan ku saaro kow baan ka siinaya aniga waxay tiri waan yaabay maba aada isoo korsanine oo waligeena Allahan ismeeyaan aqoonin xataa salaanta meena iska qaadi jino bini aadanka meelahan marmarayba iska meeyaan aqoonine maxay ceebtu aad ceebo maxay tahay imaba taqaanid beema inaga isna qaanaba wala laba qof oo Soomaaliyeed u baan nahay wuxuu yiri waxaas ka baxay waxay tiri qori uu wataaba maana la murmi karo qof qori wata wuxuu yiri gabadhan tuuladan ka tagto oo agagaarkan ka tagto oo wadankan oo dhan ka tagto gobol kale ha aado hadii kala Soomaali way ceebaysay wallahi xabad baan ku dhufanaya waxa la igu yiri tirade marka iskaga qax meeshan carar waa inaad qaxdid aniga waxay tiri waan soo qaxay marka ana cunugteedii yareed wato oo cunugtiina markaas waliba ay iga xanuunsan tahay baan soo qaxay meel magaalo ahaan imid gabadhii waxay tiri hadda ka hor aan la joogi jiray gurigeeda la iga guursaday gabadhii baan u imid dadkii oo dhan waxay tiri ana eedeynayaan ninkii baa saan ku samaysay lacag baa xoog laga qaatay wala aftubtay maxay baa saan la sameeyay maxay baa saan la yiri ninku waxaan ku irbay tir ugu diiday meherkeyga inuu isiyo gabadha yar inuu iga qaadanaya oo gabadheeda inuu iga qaataan ka cabsanaya gabadhiisa waxay tiri dadka qaar oo badan waxay ileeyeen marka ma siiseen ku siiya ilmaha yare 10 bilood jir hooyadeed bay u baahan tahay cunugteed waxay tiri isbitaal baa iska geystay oo magaaladii baan tagay oo gabadheeda ii bogsatay
gabadheeda markii ii bogsad marka waxay tiri xaafadan aniga gabadheeda aan ku noolnahay inaan laga rabin baan dareemay marka oo leeyahay maad guri gaar degtid ilmeer baad wadataay maad maxay ahaydey gabadheerta aabaheed iskaga noqotid ninku wuu ku rabaay muddo yar markaan joogay marka biliya bari meelaha suunato aad cudadii aan ka bixin u dhaweyn xataa inaan ka baxo umbu ninkii soo wacay wuxuu igu yiri bay tiri waan kugu noqday de maxaad ka bedeli kartaa waa man rajacto baan ku yiri ba xaaskayga baa tahay aniga waxay tiri ciil war rajactooda ma aqaanay anigu kuma rabo dad rajacto itiri xataa kuma rabo may waan ku rabaa dadka oo dhan buu wada sheegay gabadha waan ku noqday hadda wax la ogaado waan ku noqday gabadha waa xaaskayga aniga waxay tiri ninkii baan wacay si miir qabto degan baan ula hadda waxaan ku irbay horta bal inaan wada hadalnaa rabaay imo magaalo kale waxay markaa ku maqnaa oo shaqadiisa loo bedelay bal imo wuu yimid meel baan ku balanay waan u tagay waxaan ku irbay tiri maxaad rabtaa aniga adi hadda wax khayr iyo wanaago ina dhex yaala inuu jirin waad ogtahay أنا كمرة أدنى إمر بدي لفتر كاو سببت هذا كل نقاشنا يعني محاد كوضع محاد كفائدة ساعة وحير بس أنا قبل يدري وسوي رجسو مرة بتاعنا بناك كاميرا أنا مرة بقول نقول أنا كأرجوستن لأن قبل واحد المافيان كيوضع بتيقول يوقع بطي أنا كأرجوستن كو كاسي كو أنا قبل يدري وسوي رجسو كمان واحد حيسبه sababtoo aan xataa kuugu noqonaya hadda waxaan rabaa inaan yiraahdo gabadha hadii rabto mar labaad inaan furan banaanka ka maro gabadha yar hay igu soo weerso dadkiina la hadlan saas ku iraado hadaa diido wallahi kooba kaasinaya gabiga waaban ku dilayaaba soo ani ima dili gaadhno qori madax la igama qaban lacagteedii qasab kuma dhicin lacagtu meherkeygii bay ahayd may waxaas waxba kama jiree waa ama inaan ku diloon kawkaas inaad gabadheeda yar igu soo wareejiso kala dooro waxay tin ninkii waan dacweeyay nin abtigay hoon qaraabanahay oo booliiska ku dacweeyay waxaan abtininkaas ii hanjabay inuu idiluu rabaa ninkii waa loo yeeray saldhiga booliiska la geeyay waxa la gabadhan maxaad ka rabtaa ninkii wuu iswaalwaalay waa la xiray ninkii markii la xiray marka qabiilkiisii iyo qabiilkaygii odayaal iyo hawshii waa la soo galay waxa la markii wiilkan iyo gabadhan maxaad isku haysataan gabadhan Soomaalida furin ninkanow meherkeeda ama qori afkiha kaaga qaadata ama iyada lahayd maxaad hadda isku haysataan gabadheeda yarid baa rabaa wada marka ninkii dadkii oo dhan waxay igu yiraahdeen ninkan gabadhiisa yarta hadda si banaanka inuu kaamar xadaad rabtid una mar damana kugu noqonin wad ammaanka isa siisaan waa inaad ninka gabadhiisa yarta ku wareejisaa waxay dadka Soomaaliyeed wax ka qaldan ma garanayo qof dhahaya ma jiro ninkan oo gabadhooda kuma rabtay banaanka kamar oo ilmaheeda ha haysatay ammaan si ilmuhu waa ilmo yar sanad gaadhin hooyadeed bay u baahan tahay waa ilmo yar la qaanuun wala sharci dhigaya ma jiro ilmo yar sanad aan gaadhin hooyadii laga qaado waxay tiri ma garanayo dadka Soomaaliyeed wax ka qaldan odayaal ba horta adduunka qasam oo ogtahay odayaashii qabiilkii dadkii wixii oo dhan ilaa saldhigu ninku ku xidhnaa ilaa maxkamad ba waxay tiri loo gudbiyay maxkamadda xataa odayaasha ka awood badan waqti maxkamadda waxay xukunta xataa waxba kama shaqeynay ilaa odayaasha ku raacaan gabadhan waxa la isku raacay bay tiri marka inaan ninka dhalay faraha ka qaado faraha ka saaro ninkuna mar labaad uu dalqadaha iga yeeriyo oo banaanka kala marnoon ammaanka isa siino waayahay aan waxay tiri way sidaan yeelay sababta waxay tiri waxaan rabaa inaan shaqeysto waxaan rabaa inaan wax barto ilmaha yar ma bahayn kariba hooyaan ahayo waan u baahanahay yani si un baan ilmahayga ku haysan lahaa dil ii daayo laakiin hadaba sheekadii maraysa waan kugu noqonaya oo waan ku dilaya oo noloshaada kama baxay sida aan kugu walaaqaya hadii kale gabadheeda yar si inaan gabadh yar siiyo gabadhii waxay tiri marka faraha ka saaray isagii walaashi gabadh walaashi baa timid reerkoodu waxay tiri marka meel kale degan yihiin oo magaaladan iyo ereyadan dhan aad uga fog gabadh walaashi ha timid si ay cunugteerta u qaado gabadhiiban waxay tiri intaan suuqa aaday oo u soo shoobin gareeyay boorso dhan oo alaab iyo dhar iyo waxay u baahnayd oo dhan intaan u soo iibiyay anoo ilinta iga dhacaysa qalbiga gudihiisa aad yaabta laakiin doola cadeynayo in yarna inaan murugeysanahay aan isaga iyo dadkan idhibay u muujinayn baan gabadh yar oo keenay saas dhabta ugu soo saaray waxaan ku yiri tiri qabso ilmahaagana ma rabo adigana kuma rabo isma naqaano ifka intaad ku nooshahay oo damba magacayga hadaan ka maqlan wallahi kawban ka siinay Soomaaliland qori madaxa iga qabatay hada waqtiga ku xiga kaw ma ka siinay magacayga yana ka maqlan ilmihii yaraa waxay tiri faraha ka saaray walaashi baa qaaday ilmihii yaraa ayeedii oo ninka dhashay oo magaalo kala degan baa loo geeyay aabihiisi xanuunsanayeen ilaahay u naxariistay waxay tiri wuu dhintay laakiin ninka hooyadii iyo gabadhii walaalihii hay la dhashay ee gabadha yarta eedada u haaba waxay noqdeen dad aad u wanaagsan gabadhu waxay tiri marka maalinkan ilmaha u dhiibay waxaan ku irbay tiri waxaan rabaa gabadheeda aan markaan u baahdo in idin soo aado inaan arki karo waxay tiri waad arki kartaa cid ku diidi karta male adaa dhalay markaan idin soo wacan inaad telefoonka iga qabataan gabadheeda aan idin ka waraysto waxay tiri haye islaantii waxay marka ninka dhashay ee sodohda ahayd iyo gabdhihii ninka la dhashay dad wanaagsan bay noqdeen oo isagoo kale aan ahayn aad u fiican markaan waxay tiri telefoonka way iga qabtaan markaan soo booqdo gabadheeda waa la itusaa iyaga ay soo waca si fiican bay ila hadlaan gabadheeda nolosheeda waxay tiri daqiiqad baan ula socdo dad wanaagsan bay noqdeen oo aad u fiican
oo gabadh yartaas yar oo qurux badan oo fiican u korinaya aniga waxay tiri marka dib baan u soo laabtay marka gabadh yar waan dhiibay Soomaha khalaas waxaan u soo jeedsaday inaan wax barto jaamacad baan galay jaamacad markaan galay waxay tiri sidoo kale waxaan galay meel saaluuna oo aan kana shaqayn jiray waxaan ka baran jiray waxaan bartay make upka iyo cilaanka jaamacadeedina waan dhiganay muddo markaan ilaa sanad iyo bar meelaha sanad make upka cilaanki baranayay qof waxaan noqday bay tiri gacanta u fadhido professional oo sidaan u shaqaysanay la yaabay gelinka hore jaamacad baan dhiganay gelinka dambana make upkaas iyo cilaankaas ka shaqaysanay meel saaluuna ka shaqaysanay jaamacadeedan iska bixiya guri baan degay ala xuriyad qof de shaqaysanayo gacantiisa ku shaqaysanayo xirfad la noqdo xirfadeedii baa waxay tiri anfacday jaamacadii 3 sano kadib 3 sano bad 3 sano meelaha aad u 8 bilood 4 sano wax dhiman waan dhameeyay waxay tiri meel baan ka helay yaro shirkad ah oo aan u joogaa meel wax iibintiyo marketing iyo meelahaas saaluna kiina waxay tiri wali waan ka shaqeeyaa ilaa hadda lacag baan ka qaataan ka aruursada meel kalena waan ka shaqeeyaa labada shaqaan ka shaqeeyaa meel baan deganahay inaan dadkayga ehelkayga waalidkayga aan wax siiyamahay cid aan u baahanahay cid aan kor saaranahay ma jirto lacag baan aruursada waxay tiri hadda magaalada aan joogo inaan ka guuro oo magaalo kala degan ganacsi furtaan rabaa gabadhaydii yarina waxay tiri markasta waan la hadlaayo telefoonka noogu dhibaa weynaata hadda gabadheedu waa gabadh weyn gabdhihii waxay tiri marka dumaashiyaashii ahaa iyo sodohday baa waxaan ku yiri waxaan rabaa inaan magaaladan ka guuro meel kale aan dego ganacsi samaysto gabadheedana aad isiisaan oo igu soo wareejisaan waan ku soo wareejinaynaa bay dhaxtay ninkii waan heshiinay marka ninkii gadaal baan waxay tiri ka heshiinay waan iscafinay oo isaga xataa waan isla xiriirnaayo sida dad walaalo ah oo kala camal baan isu salaanayo salaanta naga dhaxayso waan heshiinay reerkooduna reerna sabab ay noqdeen oo aad u fiican sodohday waxay igu tiri marka mar alaala marka degtid ganacsi furatid hadaa doonto meeshaada aad degtid degano ama magaalo kale u guur ama wax meeshaad rabto aad maalinkaad ii timaadid ugu tiraada gabadheedaan rabaa soo dhow uma kule gabadhaada fartan ka saaraya ahlan wa sahlan hadda marka waxay sheekadeeda ila soo wadaagtay Muna iyadoo rabta inay ganacsi samaysato oo meeshan gelinka dambe laga shaqeynay xirfadahan ay ku shaqeysato ma ahane meeshan gelinka hore laga shaqeynay mushaharka in iska kansashay rabtaa ganacsi samaysato marka dambana meeshan kale saaluunka hadii doonto ay iska kansasho iyadu iskeeda u shaqeysato oo meel degto oo waxay tiri waxaan rabaa hanti samaysto oo gabadheeda yartaana kuulkuuliyo wax barasho wax walba gabadha 3 sano bar 4 sano meelaha sii jirta way yartaa wali meena wax barasho gaadhin waxaan rabaa tiri marka ilaa ay gabadheedu xataa weynaato gabadh weyn oo mas'uul wax kala garanaysa noqoto xataa nin inaan u keenin oo ilmo kale u keenin insha Allah mustaqbalka hanti markaan samaysto xataa hantideeda gabadheeda yar inaan ku qoran rabaa tiri aniga gabadheedu aan isla noolaano ma sha Allah ninkaas reerkoodu marka reer wanaagsan bay ahaayeen gabadh kasta waxaan kula talinayaa markay doonayso marka inay guursato iyo wiilba qofka dhalinyarada waxa wanaagsan markuu doonayo inuu guursado qofkan uu guursanayo oo rabo inuu nolosha la wadaago dadkiisu waa muhiim qaar ba dadka waxay ku oranayaan qofkan maxay iga galay qofka reerkooda maxay iga galay qofkan guursanaya ma reerkoodan guursanaya qofka reerkooda guursanaysa qofka reerkooda inaad la hadashid oo wax idinka dhaxeeyaan oo dad wanaagsan yihiin xataa ninka kala tagtaan reerku haday reer wanaagsan yihiin kuma xumaynayaan gabadha haday kugu xumaato oo dad wanaagsan ka dhalatay dadkeeda wanaagsan baa ka celinaya oo ilmo meesha haday yimaadaan si kasta hadii loo kala tago lama kala dhamaanayo haduu ilaahay dadka ubad ka dhaxbeero inta ilaa aakhir laga gaadhay adduunyada inta la joogo way isku daba xidhnaanayaan oo si kasta ay u kala tagaan hadii marka dadkan dadkiisu qofkan ninka dadkiisu ama qofkan gabadha dadkeedu dad wanaagsan dadka ehelkii haday yihiin labada qof xataa aad isugu xumaadaan ilmahaas yaryarkii xataa uqdad kuma koraan markii la kala tago laakiin dadku dad qalafsan oo xun oo nooc kale haday yihiin gabadha yarta waxa dhici lahayd hada reerkaas reer xun haday yihiin in ilmaheeda aan la hadalsiinin laga qariyo in la tuso loo diido lagu dhibaateeyo gabdhood baan aragnaa 24 saac meelaha ka ooyayo ilmahooda in la tuso xataa loo diidan yahay laakiin reerkan reer aad u wanaagsan bay ahaayeen reer fiican bay waxay tiri hooyada iyo gabdhaheeduba dad hadda way u duceysay wallahi waxay tiri ilaahay jannadii ha geeyo si fiican bay gabadheedana iigu hayaan anigana waxay tiri si fiican bay ii soo dhaweeyaan oo gabadheeda ila hadal siiyaan oo telefoonka ugu dhiibaan marka diyaar soo noqotid waxay dheen soo doonaan ku siinayna aad dhalay anagu waan ku korinaynaa waa dadka dee wanaagsan ee wax kala garanaya yaani naxariista leh ee fiican weeyaan ee naxariista badan ee ilmaha xataa dadka noocaas oo kale ilmaha loo dhiibo ama gabadha haduu walaalkeed dhalo ama ay u yihiin yaani ilmaha si qurux badan oo cuqdad lahayn bay ku koriyaan insha Allah halka markii mar sheekadu muuqaalka like bala saara channel kala subscribe videoga hala share gareeyo comment-ga khafiif kala diif ka hal iyo labo wixii ra'yigiina qaybta hoose follow no reef amaanillah